asxaabta kusoo dhawaada habeen kale iyo madasheeni dooda oo aan arrimaha siyaasadda ku falanqeyno. Caawa waxaa marti noo ah wasiirkii hore amniga iyo 2 jeer uu soo noqday agaasimihii hore gisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalonshe. doodu halkudhigeedu ama mawduuceedu waxa waaye electoral security amniga doorashada maxaa ka dhalan karaa doorasho natiijadeeda lagu burinsan yahay. sidaa darteed waxyar waxaan sugaynaa dadka nagu soo biiraya kadibna barnaamijka ayaan gudagalaynaa. sidoo kale waxaan nagu soo biiri doono Cabdisaaq Catoosh oo daadiyaasha ka mid ah iyo Cismi Daacinte oo haddaba nagu soo biiray oo isna ka mid ah dadka barnaamijkan soo qaban qaabiyey. qadar yar iyo daqiiqado naga warsuga inta saaxiibada kale nagu soo biira. soo dhawaada saaxiibada habeen kale oo ka mid ah habeenadeena aan ku soo qaadano doodaha siyaasadda hadba xaaladaha nagu soo gudboonaado. caawa waxaa marti noo ah wasiirkii hore amniga iyo agaasimihii hore NISA, sidoo kale xildhibaan hore ambassador hore Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalonshe. sidaan hore idinku sheegnay doodu waa electoral security amniga doorashooyinka maxaa ka dhalan kara natiijo doorasho lagu muransan yahay. sida la socotaan heshiiskii 17 September wuxuu dhigayay doorasho dadban oo dalka loogu dareerayo 2 deegaan doorasho inay ka dhacdo 101 oo ay ergo oo ay codeyn doonaan. sidaas darteed hirgelintii markii la soo gaaray doorashadaasi waxaa ka dhashay khilaafkaasoo sababay in waqtigii doorashada la filayay inay dhacdo ay dib u dhacdo. sidoo kalena madaxweynaha madaxweynaha waqtigii soo dhamaadayna uu ku ekaa 8 February. sidaas darteed waxaan falanqeyn iyo isdultaag ku sameynaynaa xaaladihii u dambeeyay dhacay. sidaa la socono 19 February wixii dhacay waxay sababeen su'aalo iyo doodo kala duwan oo ku saabsan amniga doorashada. arrimahaas iyo arrimo kale waxaa caawa noo faaqidi doona oo marti noogu ah barnaamijka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalonshe. soo dhawow Sambalonshe. Hello Sambalonshe, mana maqashaa? muudka iska qaad hal mar. Hello Sambalonshe. Catoosh soo dhawow inta Sambalonshe uu muudka iska qaaday. cabdicaziis aad u mahadsan tahay. asxaabta kale ee dhegeystayaashana waan salaamayaa. Cismad oo madashan ka mid ahna waan salaamayaa.
سنبلوش waxaad moodaa inuusan maqlaynin waxaan jeclaan lahayn maadaama asaga uu marti ku yahay barnaamijka intaanan bilaabin daahfurka madasheena caawa in uu aan si u helno marka asxaabta wax yar noo dulqaata waan cudur daaranaynaa cabdullaahi sanbaloolshe miyuudka iska qaad haddaadna maqlayso cabdicasiis oo toosaad u garaaci kartaa toos ula hadal telefoonkiisa kala hadalka iska furdhe dhegaystayaasha waxaan ka codsanaynaa inay noo dulqaataan intaan ka helayna qofkii lafdhabarta u ahaa barnaamijkan caawa هلو هاي سودو عبد الله سنبلوش مين مغشين هذا مرة مقشة أنا وإذا مغلا إذا كان مغلنا أو ملينا مغشين هلو هلو سنبلوش هذا مرة sanbaloolshe waa مقشة ku maqalnaa si fiican aan kugu maqalnaa مين مغشين أنا وإذا مغلا ها all the time وإذا مغلا أنا soo dhawow sanbaloolshe cabdicasiisaa noo furay waxaan jecelnahay horta marka hore inaad dadka salaanto kadib anaa kugu wareejinaya microfonka si official ah هيا خيارت وايد السلام دمانتين وأنا كحوم هاي وأنا كعذر دارنا يا هدي أو وقع تكنيكال إيرور أو دعي هلو مين مغشى ها sanbaloolshe waa lagu maqlaa soco هذه كلها مغلا مين مغلا قول فيري ismad mana maqasha adiga waa ku maqalnaa dadka dhan way ku maqlaan muuday ku jiraan cabdullaahi sanbaloolshe soo dhawow
waa sii geli kartaa. hello ها سنبلو شو والله مقلا صعود way maqashin soo ma way islaam khiyaarta dhamaantiin waan ka cudur daaranayaa waxoogaa yaro technical error-ka waan ka cudur daaranayaa waa maasantahay waayahay asxaabta dhegaystayaasha siduu cabdicasiis sheegaba doodeena caawa waxaa marti noogu ah cabdullaahi maxamed cali sanbalolshe mawduuca aan oga hadlaynana waxa weeyaan maxaa ka dhalan kara natiijada ka soo baxda doorasho lagu muransan yahay cabdicasiis baana sheegay sababta aan mawduucaas u qaadanay maadaama heshiiskii dhuufamareeb fulintiisii iyo qodobadii ay ahayd in lasii ambaqaado lagu heshiin waaye kadibna arrimo amniga la xiriira oo ku gadaaman heshiiskaasi iyo dhacdooyinkii ka dhacay muqdisho ay keenaan kala shaki iyo in wax la iska weydiiyo doorashada dhacaysa amnigeeda iyo nooca ay noqon doonto haddii wax hadda taagan ay sii taagnaadaan sababta cabdullaahi sanbalolshe aan u qaadanayna waxa weeyaan maadaama uu yahay qabiir amniga ka soo shaqeeyay 2 jeer taliya noqday aadna uga faallooba arrimahan la isku hayo inaan isaga u xulanno martidii saxda ahayd ee mawduucan ay dadka su'aalo ka weydiin lahaayeen intaanan u guda gelin cabdullaahi sanbalolshe waxaan jeclahay inuu 1 daqiiqo ku soo koobo shakhsiyadiisa meeshu ku dhashay waxbarashadiisa iyo xilalka uu dalka ka soo qabtay intaa markuu noo sheego wuxuu noo sheegi doonaa mawduucan sida uu u salbalaaran yahay iyo waxa aan ka filayno cabdullaahi ku soco hay waa maasanta Atosh khiyaarta dhamaantiin waa idin salaamay runtii waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo koobo taariikh nololeedkayga sida uu sheegay Atosh 1 daqiiqo iyo 2 daqiiqo intii aan ka gaari karo waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Cali waxaan ku dhashay magaalada Buulobarde sanadkii 1968 waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho waxbarashadayda dhexe iyo sare waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho laga bilaabo 92 ilaa 2009 waxaan ka shaqeynayay hay'adaha samafalka qaasatan UN-ka hay'ado fara badan oo UN-ka ayaan ka soo shaqeeyay xilal fara badan iyo hawlo fara badan ayaan ka soo qabtay waxbarashadayda waa ilaa heer master waxaan dhigtay jaamacadda USIU oo aan MBA master ka qaatay waxaan dhigtay Oxford University oo aan ka qaatay master's degree oo la yiraahdo Diplomatic Studies Global Governance wixii 2009 ka dambeeyana waxaan u soo wareegay dhanka siyaasadda xilal kala duwan ayaan ka soo qabtay dawladda Soomaaliya laga bilaabo wasiirka amniga wasiirka lacagta dhowr mar oo safiir Turkiga iyo Ingiriiska 2 mar oo aan niisa madax ka noqday xildhibaan aan xilli kooban ahaa iyo hadda aan mucaarad masaartiisa wata aan ahay adii taariikhdeeda waa intaas marka haddii aan u gudbo mawduuca muhiimka waa xasaasi runtii waxaan qabaa mawduucan waa salbalaaran xilli critical oo muhiim ah ayuu ku soo aaday waana mudan yahay in laga falaqoodo oo laga hadlo oo la ifiyo ahamiyadda uu leeyahay iyo yani saameynta uu ku yeelan karo dalkan deganaashihiisa dawladnimadiisa iyo dimuqraadiyadiisa dabcan Soomaaliya doorasho toos ah oo dadku toos uga qayb qaato oo codkooda u dhiibto muddo dheer laga bilaabo 69kii ma arkin dabcan intii burburkii dawladda dhexe 90 ilaa 90kiina waxa dhacday ilaa intaan ka warqabo 5 doorasho shantooda inta badan waxay ka dhaceen 3 kamid ah dibadda Djibouti oo mar ah Djibouti 2 mar ah oo carte 2000kii ah iyo 2009kii oo dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Kenya lagu soo dhisay iyo isbahaysigii ARS lagu mideeyay iyo 2004kii oo ka dhacday Kenya wixii intaas ka dambeeyay waxa loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho dawladdii Sheekh Shariif dabcan waa ka ballaarneeday doorashooyinkii horeeto oo odayaal iyo civil society iyo dad fara badan ayaa ka qayb galay magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay markii ugu horeysay haddana 2016kii inta waa ka sii baleer oo xamar kaliya lagu qabtay 2002 alifkii tan gobolada ayaa loo daadejiyay qaasatan xarumaha isteediyada Baydhabo Jowhar Garowe iyo Kismaayo ka dhacday iyo Muqdisho dabcan mid hadda taagan waa la socotaa ilaa hadda doorashana ma jirto heshiisna ma jiro madaxweynaha baarlamaanka iyo xukuumadda madaxweyne ugu horeeyay waa dhamaaday dabcan sida la socotaa taas waxay ku ekeed 8 February ilaa haddana iswarwaa ayaa ka jira marka laga hadlaayo waa doorashada electoral security-ga maxay tahay saameynteeda iyo election lagu muransan yahay saameynteeda waxay tahay haddii ka soo qobo annaga
sagaashankii markii dowladdii burburtay waad la socotaan markii cali mahdi Djibouti allah u naxariistee lagu soo magacaabay ama lagu soo dhisay asaga ciididaas ka hor yimid dagaalkii 4 bilooda ka dhashay guud ahaanna waxay salfatay dimuqraasiyadda dowladnimada Soomaaliya muddo dheer ayaa la iska soo horjeeday ilaa 10 sano lagu guul daraysay in la dhiso dowlad la isla ogol yahay ilaa markii dambe Djibouti la tagay waa la socotaan oo markii dambeeto dowladdaas waa shaqay weysay haddana ii sheegeen waa la socotaa Puntland markii Cabdullaahi Yuusuf isku dayay mandate-ka inuu kordhiso crisis ka dhacay markastana doorashada haddii aanan security-ga ama aan siyaasadda laga heshiis ahayn ama aanan hay'adaha ammaanka heshiis lagu qabin waxa ka dhacda cawaaqib xumo muran iyo isqabqabsi iyo xiisado siyaasadeed ayaa ka dhasha waa la socotaan historical perspective-ka Africa Kenya 2007kii doorashadii ka dhacday sidii qalaasi ka dhashay oo 1 milyan qof ay ka dhinteen tan hadda Ethiopia taagan oo ilaa la leeyahay ethnic cleansing ayaa ka dhacay qayb ka mid ah Ethiopia oo muran doorasho la xiriira waa la socotaa Ivory Coast waxa ka dhacay Burundi waxa ka dhacay waa la socotaan Uganda maalin kasta waxa ka dhacay waa la socotaan waxa kaliya oo aan laga heshiinin waxay tahay in doorasho la isku dayo in xoog ama power xoog lagu qaato wax la isku cafiyo maahan waana waxa dalalka burburka u keena waliba burbur aan laga soo waaqsan oo aan laga heshiinin oo aan laga soo kabsanin annaga hadda waa la socotaan in ciidamadeena maalin dhaweed 19kii February markii la isku doorashadii dib u dhacday in hadda ay qabsoomaysana aysan cadeyn si cadaadis loogu saaro dawladda in hore ay u dhaqaajiso doorashada in la isku dayo mudaaharaadii in la sameeyo dabcan oo ciidamadii loogu talagalay al-shabaab in la dagaalaan amaanka dalka in sugaan siyaasadda in ka madax banaanaadaan in banaanbax si cad loogu hor istaagay taasuna runtii ay argagax iyo shock ku abuurtay iyo shaki laga qabo iyo diidmo laga qabo ciidamadu inay si toos ah u soo faragashtaan doorashooyinka annagana waxaan ka shaqeynaynay ama aan daneynay ay tahay doorasho laga wada hadlay laga wada heshiiyay la isku tanaasulay dad heshiis ayaana doorasho loo qabtaa oo miis isku imaan kara oo wada hadli kara dad sideedaba salaanta ku kala leexanaya ama shisheey oo ku kala dhex jiro doorasho looma qaban karo overall marka aniga waxay la tahay doorasho amaankeeda khalqal ku jiro ama doorasho ciidamaysan oo askaraysan natiijadeedu waxay tahay dagaal sokeeye oo muddo dheer socda waxay tahay dalka oo qaybsama midnimada dalka oo dhaawacanta kalsoonida yareed oo political transition-ka ahayd oo tartiibta ahayd oo la soo waday oo dhaawacanta midnimada dalka oo dhaawacma wala socotaan ciidamada hadda qaaska Turkiga in Turkigu ka dhisto Academia Muqdisho oo danab American oo tababaro oo gorgor ama ciidanka liiraado ii sheeg in xaram cad ay Turki tababaraan imaaraad uu ka furto xarun tababar ciidan waxay ka dhalatay 2012kii markii doorasho la isla ogol yahay xamar ay ka dhacday oo markaas si nabad awood lagu kala wareegay markaas ay adduunka kalsooni ah u galay meeshan dawladnimada la iska maxoogayo lagu ma dagaalamayo waana suurtagal in si nabad doorasho lagu qabto dimuqraasiyadda iyo dawladnimada ay kabacdo dabcan dawladda hadda jirta ciidamada qaaska ah loo tababaray ma ahan in xukuumadda hadda la jecel yahay ama dadaal ay keensatay ma ahan waa xilkasnimo iyo dadaal dawladihii ka horeeyay ay muujiyeen haddana waa la socotaa markii isqabqabsigan dhacay Ameerikaanku inuu ka baxay ciidamadiisa dhammaan oo ka rartay Soomaaliya mar hore imaaraadka oo meesha ka baxay haddeertaan si joogta Turkida loogu cadaadinayo in ciidamada ay tababaraan iyo qalabka military baxshaan aan electionka loo isticmaalin taasuna waxay imaan doontaa in guud ahaan Soomaaliya laga niyadjabo rajadii laga qabay ay yaraato dawladdu bana ay faraha kala baxdo tababarkii kaalmada ciidamada siinayso marka waxaan qabaa in ciidamadeena waxa loo dhisay waa dan guud waxa loo dhisay waa in ammaanka dalka AMISOM kala wareegaan waxa loo dhisay waa in ay human security-ga ay ilaaliyaan waxa loo dhisay in good governance ay gacan geystaan ee looma dhisin in regime protect gareeyaan ama looma dhisin in election lagu xoogo marka waxay ila tahay in kulligeen ay mas'uuliyadda inaga saaran tahay image-ka ciidamada sharafta ciidamada integrity-ga election-ka inaan ilaalino waa ka baxay aad ma hasan tahay waxaan ku wareejinayaa ninka dooda ila xiriirinaya Cabdicasiis Golf Cabdicasiis waa ma hasan tahay Cabtoosh sambaloshe adigana sidoo kale
waxaan hadda u gudagalaynaa su-aalihii inta aan su-aalo ku weydiinin waxaan sameyneynaa dad baa jiri doono su-aalo nagu soo weydiiyo social media sidoo kale dadka waxaan u kala xulaynaa gabdho iyo wiilaa loo kala soo saara saaxiibada uu xalay aan barnaamijka intiisa badan aan siinay microfoonka caawa way naga raali ahaanayaan qaarkood oo gacanta soo taagtaan ujeednaa dadkii ayaan fursad siinaynaa si aan uga dhigno si kala sooc la-aan ah haddana waxaan ka bilaabeynaa qaybta kore ayaan 2 qof soo saarayaa هيا عبد الفتاح هلو عبد الفتاح adaa lagu baaqay adaa ugu horeeyay muudka iska qaad magacaaga saddexan meesha joogto ku bilow عبد الفتاح انتو مودك اسكا قادايو دينيان u baaqayna diini soo dhawow dhammaan way salaamay banalka cabdicasiis iyo atooshi oo maatin cabdullaahi sanbalolshe waxaan rabay inay hal su-aal oo weydiiyo oo ku saabsan doorashada iyo ammaanka doorasho haddii la qabanayo lagama maarmayo ammaanka in la sugayo ciidamada haddana maadaama aan dowladihii soo aragnay dowlad walbo qofka u dhow ee mar walba waxa uu ah taliyaasha ciidamada ama campaign risk somehow marka uu madaxweynihii soo baxo wuxuu u dhiibtaa qof uu dhow yahay hadda dowladdan waxaa laga dheehan karaa madaxda ciidamada waxaa kamid a dad ay ladhaayo lagu xaglinayo dowladihii ka horreyna sidoo kale sidee ciidamada ammaanka sugaayo oo doorashooyinka iyo dadka hoggaanka u loo kala saari karaa waa maxay siyaasadda doorashada iyo ammaanka u yahay qabanayo marka su-aashaas weydiin lahay waana mahadsantihiin dhammaan saa fursadda noo siiseen aad waa mahadsantihiin diina waa mahadsan tahay runtii horta mar kasta waa muhiim ciidanka in oo saraakiisha madaxda u noqonaysa iyo hoggaankoodaba si binaala oo jeclaysa aan lahayn adiga ayuu ku hiilanayaa ama adiga taada ayuu ku shaqaynayaa inaan loo xulin waa muhiim mar kasta in competencyga ama xirfadda uu leeyahay ama aqoonta uu leeyahay ama credibility uu leeyahay in lagu xulo waa muhiim dabcan annaga dal fragile oo hadda kasoo kabanaya dagaallo sokeeye wax kastana perfect ma noqonaa laakiin progress ama horumar ayaa laga samayn doonaa aniga waxaan xasuustaa 2016kii tuur yare oo nabadsuguda madax ka ahaa barashar fara badan ayaa mucaaradku xasan sheekh saaray bacdama oo u dhowaa in uu xasan sheekh lagu xaglinayay dowlado fara badan oo kaalmeeya hay'adda nabadsuguda iyo tababarada ama kaalmeeya ciidamadeena ayaa looga ashtakooday xasan sheekh waa kii ka qaaday meesha maxamed sheekh oo taliyaha booliiska ahaa maalin uun xaflad sanad guurida booliiska iyadoo la dhigaayo waxaa kasoo fakatay in uu xasan sheekh uu codod u haayo taasuna waxay kaliftay in iskool booliisiya oo doorashadii 2002 alifka lagu qabtay hadalkaas maxamed sheekh yiri darteed loogu soo wareejiyay taandhada afasyoon xasan sheekhna waa aqbalay waxaan qabaa sideedaba ciidamadu uma shaqeeyaan rejiimka iyo qofka madaxda ka ah waxay u shaqeeyaan dalka waxayna ka shaqeeyaan ammaanka dalka marka waxaan qabaa hadda kadib habka loo xulayo iyo mechanismka la marsiinayo iyo hadeertaan wasiirada on si macbil la isaga soo marsiyaa waxaan qabaa hadda kadib taliyaasha ciidamada ama aqalka sare ama guddiga difaac baarlamaanka si shaqsi ah in maxaan ku dhahaa in loo soo marsiyo xilliyada doorashada ay timaadana declarations laga qoro oo la yiraahdo special ciidanka xoogga iyo nabadsugudu ayagu wax shaqaaba kuma lahanba doorashada waxaa ilaaliya booliiska haddana bacdama dowladnimadeeda decentralized ay tahay ama federal ay tahay in ammaanka iyo howlaha doorashada iyo maamulkeeda isteedada loo dhaafo wixii laga maarmaan ahna si oo macquula dowladda dhexe qaasatan ciidanka booliiska normalka oo shuruucda ku dhisan oo
leeyahay rule based maxaan ku dhahaa framework ku shaqeeya ama institutionalized maxaan ku dhahaa rules iyo regulations kale in loo dhaafaan qabaa waa qabaa in ciidamada iyo siyaasadda la kala saaro haddii kale dalkaanu dib u dhac kama baxaayo marnaban ciidamadiisa ammaanka iyo siyaasaddiisana wax kalsooni laguma qabaayo hello haye axmed cabdi caziz waa mahadsan tahay dhammaan banalka waan salaamaya samblash waxaan rabaa inaan weydiiyo walal waxaad ka qabtaan doorashada madaxda dowlad goboleedyada sidoo kale qaarkood oo hadlana walwal ay ka qabaan amniga oo marar badan ay ka hadleen haba u dambeeya madaxweyne puntland deni oo dhowaan hadlayay marka sidee idinla muuqataa idinna waa huweysantihiin mucaaradkii amnigana cabashadaas ka qabtaan ma qorshe sidee marka su-aashan raba xataa inaan weydiiyo sidee wax ku qabsoomi karaan haddii idinna huweysantihiin amnigiina aad ka qabsanaysaan oo walwal ka jiro ciidamadana aad tuhun ka qabtaan waddo noocee ah ayaa doorasho lagu qaban karaa oo amnigeeda ma in caalamku farageliyo amniga amisom loo daayo maxaa qabtaan tabashada aad qabtaan ee la rabo in amnigeeda ah maxay tahay inaad halkeedina rabnaa horta meeshaan waxaa la rabaa caqliga doorashada la rabo in doorashada lagu galo waa inuu ahaadaa mid is-ogol ah laga wada hadlo oo laisku tanaasulo oo ii sheeg isfaham rasmi in qaybaha u dhex mar wada hadla ayaa muhiima haddii hadda mucaaradku uu hubaysan yahay horta mucaaradku ma maamulaayo marnaba qayb kama ahan election managementiga ama election security qayb kama aha hadda maalin dhaweed waxay dhacay 19 February wixii dhacay shock iyo argagax ay abuureen dabcan kalsooni darro fara badan oo markii hore jirtay ayaa soo xoogaysato ciidamada ammaanka iyo dabeecadaha madaxda ee dalka la qabo madaxdan dawladda hadda jirta yani dabeecadaheeda ama habdhaqankeeda sanadihii la soo dhaafay ee la xiriira doorashooyinka markaan dib u eegno waxay ahayd wax alla laga magan galo sida wixii ka dhacay Baydhabo wixii ka dhacay Galmudug oo tii ahlu sunna maxaan ku dhahaa meesha looga soo saaray tii ugu dambeysay oo ay sheegeen 19 February oo si nabada iyadoo lagu mudaaharaadayo marnaba ay hor istaagtay mudaaharaadkii taasoo micnaheedu tahay constitutionalkii political rights dadku lahaa civil rightskii ayaa la hor istaagay marka haddii dadkii ay cabsi ka qabaan ciidamadii ama ay kalsooni dawladda ka qaban dabcan qof walba inuu ammaankiisa ilaashado oo isprotect karo is-ilaaliyo duruufta ayaa ku kalifaysa laakiin mar haddii environmental and political toxic ama sumaysan ama khilaaf ku ragaadiyay ama yani kacsan la dejiyo oo kalsooni la dhiso macquul ma ahan in sideedaba sida la sheegay seef laba yani gal seef laba seef uma wada gasho ammaanka dawladda ka mas'uula isdeedada ka mas'uula mucaarad ammaankiisa suganaayo ma jiro haddii ba jiraay mucaarad ammaankiisa suganaayo inaan doorasho la qaban ayaa ka fiican oo la hadlo meesha dareenka jira laga saaro alfalo aban raban in wiisha ka weydiino tusaale waxaad u soo qaadatay wixii ka dhacay Baydhabo iyo Galmudug waxaas waxay ahaayeen Soomaaliya doorashada intaan la gaarin wax dhacay maya labadaba after horta doorashada khalalaasa pre election wax la yiraahdo iyo post election midna natiijada laga murmaa midna gelitaanka iyo habka loo maamula laga murmaa Baydhabo waxa ka dhacay koow marka mudaaharaadadu dhacayeen waxa la soo qabtay Muqtaar Robow oo one of the candidates ahaa ayaa la soo qabtay kadib waxa ka dhacay kacdoon dad baa ku dhintay khalaasa ka dhacay ahlu sunnada doorashada markay dhacday kadib ayay wuxuu ahaayeen ka horma ahayn ayuu doorashada la isku qabanayo oo aan laga heshin ayaa la qabtay natiijada markay maageen ka dagaalama ama hor istaagana waa loo xog sheegtay marka dood badana ka jirtay labadaba ka hor iyo kadib laakiin labada shil waxay dhaceen doorashada kadib marka ujeedkaaga waxa weeyaan waxaad leedahay intayba doorashada maalinka codbixinta la gaarin ha noqoto xaaladu mid is-ogol iyo deganaan lagu gaaro yes waxaa la yidhi kolba wixii oo tashica wuxuu leeyahay kala waa bariye haddii marka ugu horeysa inta stakeholderska ama danaynaya doorashada ka qayb qaadanaya horta sideedaba doorasho marna waxaa go'aamiya ballot boxka iyo codbixiyaasha marna qoriga ayaa go'aamiya marna maxkamadda go'aamisa haddii marka qoriga uu go'aaminayo inaan la gelina ka fiican waxaa la rabaa in natiijada ballot boxka inay ka soo baxdo
si taas u dhacdana marka ugu horeysana declaration laga wada qoro dhammaan inta qayb qalaysa ay dhahaan waa ku qanacsanahay processka natiijada waa aqbalaynaa haddii dulduleele iyo madow ka soo baxana dib u eegis iyo isla xisaan niyad same ku jirto loo wada joogo ayaa la samaynayaa sideedaba aan fair ahayn waxa ka soo baxa in la gala ma fiicna waxa roon political crisisku inuu socdo laga wada hadlo laga heshiiyo kadibna ayadoo la is ogyahay doorashada la aado cabdullaahi waa mahadsantahay cabdicasiis golf dhegaystaha xiga soo saar jacfar عربة جعفر سوسي هلا هذا اسمه دواي golf dadka saddex u soo saar saddex markii ay jawaab su'aalooda ay maaragtay ay dhibtaan oo laga jawaabo saddexda ku xigto si uu safku u yaraado oo adiga xataa u kala fahamto maaragtay dadka gacanta taaganaa ma sad way wanaagsan tahay waxaan u mahadcelinayaa cabdicasiis golof cabdisaaq catoosh ismat iyo abdiqaadir boos hadiyayaasha barnaamijka waxaan rabaa su-aasheeda inaan ka hormariyo waxaan jeclaan lahaa in taliyaha loogu yeero titlkiisa maxaa la yidhahdaa iyo mansabkiisa inaysan iskaashanku naga micno beelin cabdilaahi sanbalushe magacaas waa lagu yeeri karaa waa wax fiican laakiin warkashkaasa ka hormarinaa su-aasheedu waxaa waaye taliyaha waxaa weydiinaa electoral security policyga marka laga hadlaayo yaa mudan ammaanka meesha doorashada lagu qabanayo inay sugaan amisom iyo ciidamada dowladda oo federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada isku dhafan yaa mudan electoral security policy ahaan inay sugaan ammaanka goobta doorashada lagu qabanayo su-aasheeda labaad waxaa waaye maamul goboleedyadii dowladda raacsanaa waxay shirkii oo xalna laga iclaamiyey ay ku cambaareeyeen in aysan kasoo qaybgelaynin oo shirka xalana laga wareejiyo oo villa soomaaliya loo wareejiyo madaxweynahan uu soo wargeliyey maamul goboleedyada inay shirka ay kasoo qayb galaan policy ahaan sidee kula tahay si hadda qarannimada soomaaliya u fiican in la raaco talada ah in xalana laga soo wareejiyo shirka oo loo soo wareejiyo villa soomaaliya oo madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dhammaan madaxweynaha isaga uu yeero shirkan uu ka dhaco villa soomaaliya aada umaadsantahay haye magala amase qof kale aad soo gelinaysaa sidoo kale axmed sarsare asalaamu calaykum waa mahadsantahay cabdicasiis waxaan rabaa inaan weydiiyo taliya sanbaloshe dabcan 17 September heshiiskii la gaaray iyo heshiisyadii ka dambeeyay ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaad moodaa inaan xoogga la saarin oo marnaba aan la soo hadal qaadin amniga doorashada marka ma ay ilduufeen baa madaxdii doodaas ku dhex jirtay mise waxay ahayd ajendayaal la dib dhigtay taas waa su-aal haddii ay dhacdo sida hadda xaalku yahay la ismari waayo waxaan rabnaa sanbaloshe bal xalka isaga siduu u arko ma in amisom ay la wareegtaa amniga doorashada mise solution kale oo fudud oo in ciidamo isku dhaf ah oo statiska iyo midowga musharaxiinta iyo dowladda federaalka ka socda ay maamulaan baa muxuu yahay solutionka ugu habboon ee maanta dalku meel gaar ka soo baxay ee dowlad ah ee qaran ah sumcadiisa lagu ilaalin karo qaabka ugu fudud ama ugu wanaagsan ee loo maareyn karano inuu la wadaago waa maasinta labada su-aal inaad ka jawaabtadaan jecelnahay haye waayahay ammaanka goobaha doorashooyinka ayay tahay inay qabtaan haddii aan aado horta weli annaga meelaha problem ka taagan yahay horta waa isteedyada hadda lagu tiriyo inay alla yihiin ama ay si toosa ugu xiran yihiin ama ay gacan saara leeyihiin dowladda dhexe waa galmudug oo dhuusamareeb ah iyo meesha la yidhahdo beledweyne iyo jowhar iyo baraawe iyo meesha la yidhahdo baydhabo problemka jira waxay tahay normally waxay aheeday bacdama dowladda federaal ay tahay in state kasta ilaa xad ammaankiisa iyo maamulkiisa iyo arrimihiisa asaga uu ka adag yahay oo doorashada fuli karo oo ammaanka oo hagaaji karo ama oo hogaamin karo laakiin xaqiiqadu waxay tahay ciidamada hadda madaxweyne farmaajo ama dowladdan loo soo tababaray ayaa ciidamo u ah deegaanadan hadeerta aan soo sheegay galmudug hirshabeelle iyo southwest waxa kalsooni darrada lagu qabaana waxay tahay waa madaxweynaha
oo u qaabeeyey doorashada siduu asaga oo kusoo noqon lahaa marnabana aanan kala hadlaynin ama aanan kala xaajoonaynin cidda oppositekiisa oo asaga kasoo horjeeda waxaana la yidhi caqli rageed waa mudco maxaa la yidhi waa af mudco waa iska soo horjeedaan yacni wax wada hadal lagu dhamay karaan in lagu dagaalamo aha waxay la tahay aniga hadda question waxaa taagan bacdama baarlamaanka iyo dowladaba waqtigooda dhammaaday horta ciidamada dalkii ka amar qaadanayaan amisom oo dalkan dowladdan inay kaalmayso ammaanka inay kala shaqayso dowladda loogu talagalanayo ka amar qaadanayaan that is horta constitutional questions ama su'aalo oo dastuuri ayaa taaganba maalin dhaweyd amisomna waxaa muuqata in hadda baydhabo kale ciidamo ethoobiyan oo amisomaha joogay qaybay ka ahaayeen maxaan ku dhaha crisiska baydhabo waa joogeen meesha la yidhaahdo ii sheeg galmudug haddii qayb kama ahayn laakiin haddii meesha waa joogeen laakiin khalalaasaha iyo ma faragelin maalin dhaweyd waa joogeen in xamar markii lagu xabadaynayo dadka mudaharaadka hogaaminaya madaxweynayaashii horeeto waxba kama dhihin maalin dhaweyd markii aaska sheegeen madaxweyne hore cali mahdi la keenayay ama laga qayb galayna rumar waxaa jirta inay raboorka xirteen marka cid ammaanka dalka lagu aamini kara ama mas-uulka ayaana jirin asal waxa ah dowladaha hadeertaan maamul goboleedyadu inay ayagu maamulka guddiga doorashada iskale laakiin waa inay ayagu mas-uul ka noqdaan electionka haddaysan ka noqon karin habkii lagu kaalmayn lahay hab la isla og yahay oo muuqda oo la xisaabi karo oo transparency waa inuu noqdo amisom ayaa kusoo hartay amisom I think waxay la tahay doorashada waa ka qayb qaadan kartaa laakiin waxaa la rabaa cidda ay ka amar qaadanayso in laga heshiiyo ma election commissionka ka qayb qaadanaysa guddiga doorashada ka qayb qaadanaysa ma maamul goboleedka ka qayb qaadanaysa ma dawladda dhexe ka amar qaadanaysa bacdama legitimacy crisis uu jiro waxa muhiim ah in la iswarsado doorka ciidamada iyo cidda amraysan xilligan kala guurka ama xilligan mandate crisis uu jiro midda kaleeto ah laga ilduufay hello Abdullahi Saad ha midda kaleeto ah ma laga ilduufay electoral ii sheegeen security-ga hadii dhaga dheertaan u dhigta maahan traditionally maba amaan daro election maba jirinba electionkii anaga electionkii waxaan ogeynaa anaga 2002 alifkii xamara la joogay cid kasta meesha rabtay ka campaign gareynaysay hotelka fiitagaysay meesha rabtay u soconaysay cid caburinaysa ma jirin qofkii raba mudaharaadaay waliba hadda madaxweynaha hadda jooga 2002 alifkii markuu imaanay si weyn loogu soo baxay 2016 waa loogu soo baxay ciidamo hor istaagay marnaba marka maba la islahayn ba ciidamadii amaanka dalka iyo national security-ga dalka loo dhisay oo waliba shisheeye taxadiraya oo noo dhisay ayaaba si qaldan loo isticmaalaya ama election lagu caburinaya horta marnaba la isma lahayn markastana dulduleelkii soo baxay qalaadkii soo baxa sidii loo sixi karo iyo sidii loo dib eegi karo ayaa loo eegayaa markii hore waa laga ilduufay kalsooni daradaas uma jirin laakiin kalsooni daradaas waxay timid 19 February wixii dhacay darteed ayaa soo isbiciyay ayaa banaanka soo dhigay Abdullahi waa santahay follow up question oo ku saabsan markaad ka hadashay dhuusamareeb wixii ka dhacay iyo wixii ka dhacay Baydhabo iyo Muqdisho oo aad leedahay amisomtaas cidda ay amarka ka qaadanayaan su'aal iska weydiinaya iyo ciidamada daacadda u ah dawladda dhinaca kale sool isma oran karo ciidamada amisom ee kismaayo joogaana madaxweynaha Jubbaland ka amar qaadanayaan ciidamada jooga ee nabad sugidana waa maamul Jubbaland hoostaga kuwa garowe iyo dhuusamareebna si ciidan iyo hoostagi doonaan marka maxay ku kala duwan yihiin labada amar fiiri horte garowe doorasho ka soo dhacday 2018 keeda umalayna markii Saciid la doortay wax qalalaasa kama dhicin waxa la yiraahdaa ma ogtahay ma gacan dufalaha wax lagu qaataa mise gacan dhiigle waa dhici kartaa gacmo dufale iyo wax basara inay dhici karaan oo gacmo wax la iswey wadaarsado waa dhici kartaa laakiin garowe meel doorasho taariikh la isku xooga leh ma ahan u dhiig kuma daadan Kismaayo dabcan waa laga hadli karaa ama hadda waxa la dhihi karaa election arrangement-iga ama election management-iga kulligeed comprehensively waa laga heshii karaa dabcan Axmed Madoobe shirka laga qabaa Saciid shirka laga qabaa anybody else shirka laga qabaa haddii election kan la qabo waayeen aniga waxay la tahay in van avenues kaleeto ama siyaabo kaleeto wax lagu xaliyo aniga waxay la tahay aad inuu adkaan doonto election kan lagu heshiiyo election heshiis lagu yahay inuu dhaco
election lagu qanacsan yahay outcomekiis inuu dhaco xildhibaana in la soo saaro this season xilligan inay aad u adag tahay ayaan qabaa laakiin haddii dhici weyso waxaan qabaa in guddi integritygiisu sarreeyo oo dad dhinagtirisa oo soomaaliyeed oo waaweyn oo aan ciyaalkaaniba siduu jecel yahay usoo magacaabay aan ahayn oo qof soomaaliyeed aan u waxanin oo ilaahu waxa la yiri eexna haygu cafinin aqoon aan haygu cadaabine dad integritygooda iyo waayeelamadooda la isku halayn karo miisaanka electionka ay doorashada ay leedahay fahmi kara in la xulo oo new arrangement election la aadan qaba haddii hadda la dhoodhoobi waayo ama laga gudbi waayo ismarwaaga taagan waa maasan tahay inkastoo ay caawa aada u yar yihiin gacanta taaganaya waxaan hadda siinaynaa Yurub. waa mahadsantahay walaal cabdicasiis waxaan weydiinayaa cabdulaahi sambolshe su-aal waxaan u malaynaya securityga la xiriirta oo ah dhacday oo dadku o dhan wada ogyihiin qalbi dhagax waxaan rabnaa insha allah kolley su-aashaas jawaabteeda in badan baan sugaynay caawan waxaan rajaynaya inaad nooga jawaabaysid qalbi dhagax waa muwaadin soomaaliyeed asagoo gaalkacyo ku sugan baa ciidamo soomaaliyeed u tageen oo hoteelkii uu deganaa ay kala baxeen saan ognahay oo maaragtay wareysigiisii aan ku maqalnay maxaa la yidhaahdaa qofkii ugu dambeeyey ay gaariga isla raaceen wareysigiisa haddaad dib u dhegaysataan adigu u ahaa amarka yaa bixiyey madaxweynaha kamuusa jawaabin ra-iisul wasaarahana kamuusa jawaabin adigana wareysiya aad bixisa waan arkay jawaab waafi ah kamaada bixin marka anigu muwaadiniinta soomaaliyeed anigu aan ugu horeeyo waxaan rabnaa jawaab yaa amarka bixiyey oo maaragtay ninkan muwaadinka cadowga gacanta u geliyey su-aasheeda labaad waxa waaye markaad joogtay nabad sugidda waxaa jiray in maaragtay qaraxyo badan ay dhici jireen ay maxaa la dhahaa ay dilal badan ay dhici jireen markaad bannaanka istaagtana inaad dowladda inaad eed badan aad u jeedisay markaad joogtay maxaad wax uga qaban weyda maxaa qaldanaa yurub waa mahadsan tahay yurub aad waa mahadsan tahay walaal soo dhawaaw waa ka xunnahay labada su-aal eed weydiisaba wax xiriir ah lama lahan mawduuca madasha caawa aan oga doodayno waa ka cudur daaranaynaa umana gudbin karno martidana la joogta qofka kale cabdicasiis cabdicasiis aad u mahadsan tahay waa salaama daadiyaasha barnaamijka iyo taliyaha laba su-aal aqoon mid horaa la weydiiyey su-aashaan raba inaan weydiiyey taliyaha waxaa waaye haddii maamul goboleedyada dowladda taageersan ee doorasho qabtaan kuwa aan taageersanin dowladda ee doorasho qabanin oo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaada dib isugu doorto beesha caalamkuna ay aqoonsato doorashadaas oo madaxweynaha dib ugu soo laabto maxaa mucaaradka balaan b u ah oo ay sameynayaan waa mahadsan tahay horta sidii waxaa la yidhi loo jabaa loo dhuutiyaaye dabcan wixii la huri waaye ayaa la yeeli doonaa laakiin waxay la tahay in beesha caalamku ay mowqifkooda mar hore caddeeyeen oo ay dhaheen no partial election no unilateral no partial election iyo no maxaa la dhihi jiray parallel process labadaas waa diideen lamana aqoonsan doono mana aqbali doonaan natiijada ka soo baxda dabcan markii hadda dowladdu ay qaladka ku hormarto oo hadda partial election ay qabato ayaa Soomaalidu tashan doontaa wixii la gudboon ayayna yeeli doontaa waxaas ayaa la yeelayaa aniga hadda mucaaradka afyeen uma ahi go'aan ay gaareen haddii ay waxaas u dhacaanna oo ay meel dhigteen hadda anigu ma ogi laakiin sidii markaas ay daruuftu noola soo gudbanaatay ayaa loola tacaamuli doonaa waxaan rabaa cabdicasiis qofka Mustafa oo ku xigay intuusan gelin su'aaluhu waa hal wax laba la dhahay ma jiro waqtigu waa badan yahay 400 iyo adiga 500 dadku waa gacanta taaganayo si la isku gaarsiiyo waqtiga su'aaluhu waa hal labo waa laga qabanaa sababtoo ah 500 oo qof ah gacanta taaganayso 500 waa la rabaa inta la gaarsiin karo in la gaarsiiyo su'aaluhu waa hal waa tahay mahadcelinta asxaabta horaan la qabaa waxaan rabaa inaan weydiiyo mudan cabdullaahi sambalolshe arrintan isticmaalka ciidamada ah wax badan ay soo noqnoqotay
mustaqbalkana inay dhacdana walwal badana laga qabaa marka si aan mushkiladda si qoto dheer ugu fahanno waxaan rabaa inaan ogaado waxaa gaab ka jira xeerarka ciidamada iyo xeer nidaamiyayaasha oo u oggolaanaya in madaxda xataa ay amarro khaldan ku adeecaan maya I think in xeerarku waa cad yihiin waajibaadka ciidamada iyo sida ay mas-uuliyaadkooda u godayaan waa caddahay laakiin dowladnimada Soomaaliya mid xoogaysata maahan mid institutionalized garaysan maahan waa mid personalized garaysan waa shakhsiyaysan tahay dabcan waxaana raad nagu leh ama taariikh nagu leh dowladdii kacaanka ahayd muddo dheer hal qof ka tilinayay oo allegiance-ga aysan mar walba dastuurka iyo dowladnimada aan la siinayn ee qofka la siinayay hadda qofka sharci difaaca ama baarlamaan difaaca ama institution difaaca lama arkay job security problem iska jirto qofka ninkii xilka u dhiibay buu iskaga hoggaansan yahay laakiin haddii si professional oo competitive oo loo tartamay oo qofku oo waayo aragnimadiisa iyo aqoontiisa iyo xilkasnimadiisa iyo kartidiisa meesha uu ku yimaaday dabcan dastuurka dalka iyo xeerka ciidamada iyo danta dalka ayuu hoggaansami lahaa laakiin hadda waa iska taqaanaay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dawladda markaas jirto waa iska gacan bannaan tahay qofka rabtay keensanaysa qofka rabtay ciirinaysa baarlamaan sheegeen xisaabinaya male institutions kale accountable ka dhigaya ama ku qabsanaya qaladaadka siyaasiga iyo go'aamada siyaasiga qaadanaya male qof difaacay taliyaasha lama arko hadii qof walbana waxay tahay madaxaaga meerax ku duubo nin walbana hadii sharci difaacaya ama institutions ama hay'ado dawladeed oo difaacaya ama madax ka xishoonaysa oo waajibaadkooda si mas'uuliyad ku jirta aan u gudan ay si jirin qofkaas inuu vulnerable iska ahaado oo wixii markaas lagu amro uu iska yeelo waa iska suurtagal dadka inta badan way aragnimo fara badan ma laha aqoon iyo khibrad fara badan ma lahan cid difaaciisa lama arko markii horeetaba waxa lagu keenay ii sheegay inuu loyal yahay ee laguma keenin hadda inuu qodadka ugu kartida badan ama uu aqoonta badan yahay marka still institutional fragility ama waxa jirta weakness oo institutionska ama dacfi institutionska jira iyo madaxda oo mar walba ii sheegeen abuse of power sameynaysa oo aanan ayagu aan isxadidayn oo aanan ka gaabsanayn in ay si xoog ah ama si gacan maroojisa ama jajuub ah ay u amraan ama ay sheegaan u isticmaalaan awoodaha ciidamada iyo power ii sheeg maxaan ku dhahaa ama government ii sheeg maxaan ku dhahaa institutionska waa gartay haddana waxaan siinaynaa cabdiqaadir boos waa maasantahay golof yare ismad ceynte iyo cabdirasaaq catoosh oo barnaamijkan inoo daadihinaya sidoo kale waxaa marti ah cabdullaahi sanbalulshe oo nin qabiir ku ah dhanka amniga ah oo looga dambeeya dhanka soomaaliya gobolka intaba waxaan rabaa inaan su-aal maskaxdayda ka guuxaysa oo shacab fara badan oo soomaaliya isweydiinaya inaan weydiiyo maadaama caawa fursad aan ku helay cabdullaahi sanbalulshe waxaa jirta in madaafiic dhowr ah lagu tuuro goobo soomaaliya ka mid ah oo khaasatan madaxda soomaaliya ay ku shirto madaxweynaha ama madaxda maamul goboleedyada waxay dhacday dhuusamareeb waxay ka dhacday baydhabo waxay ka dhacday xarunta xalane ama madaxtooyada markii waxay kusoo beegantaa weliba shirar xasaasi ah ay jiraan oo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha soomaaliya ay kulmaayaan ama mararkaas la dhihi kara xataa shirar soomaaliya aayaheeda dambe muhiim u ah ayaa socda marka dad badan ayaa isweydiinaya maadaama cabdullaahi sanbalulshe anigu ka mid ahay amniga uu khibrad u leeyahay caawa shacabka soomaaliyeed inaa u cadaysadaan rabaa inta aad ka og tahay maadaama agaasimihii mataqaanaa taliyaha nabad sugidda aad mar noqotay agaasimaha nabad sugidda aan iraado iyo taliyaha nabad sugidda labadaba iyo wasiirkii amniga marka maadaama amniga u dhulduleeshid waxaan rabaa inaan caawa fursadeeda kaga faa'iidaysto oo shacab fara badan su-aashaas waqti u saamixi waay aan u hadlo madaafiicdaas lagu garaacayo goobahaas muhiimka oo madaxda isugu imaanay sida saciid cabdullaahi den uu sheegay sida madaxweynaha puntland iyo madaxdaas oo mataqaanaa ciidamo gaara u wato amnigooda aad u xoojinaya shabaab keliya ayaa madaafiicdaasi soo gama miyaa la odhan karaa mise madaafiic siyaasadaysan oo dad isbarbar socda oo shabaabka ka baxsan oo waxyaabo mataqaanaa aan raba hadda inaad sheego adiga ka dhawaajin doonto isku haysta ayaa jira haddaan soo kaba su-aasheeda waxay tahay shabaab keliya miyaa madaafiicdaasi ka dambeyn kara khibradaada amni adoo ii kaashanaya waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay horta mar kasta markii qaladaad amni iyo dhibaato amni jiraan ama siyaasadda la iskaga soo horjeedo wax isku riixriix
iyo conspiracies ama ii sheegeen in qaladaad la kala fahmo way jiraan ilaa hadda annaga weerarada lagu soo qaadayo airportka ama meelaha muhiimka oo shirarka high profile-ka muhiimka oo ka dhacayaan annagu shabaab oo haysana ayagaa sheegta ayagaa lagu yaqaanaa dawlad ammaanka lid ku ah annagu ma ogin haddana ma ku labaalgarayn inay dawladda ii sheegeen inay hadda waxaan ka dambayso ilaaha naga og laakiin mar kasta haddee tuhun waa jiri karaa ii sheeg maxaan ku dhaha waa la siyaasadayn karaa amniga waa la siyaasadayn karaa dhacdooyinka qaarkood waa la is eedayn karaa laakiin anigu shaksiyan meel ay dawladda hadda aan uga eedayn karo in ay waxaas ka dambayso ma jirto waxa lagu eedayn karaa dawladda waajibaadkii laga rabay in ammaanka sugto oo aysan marnaba shabaab iyo cid kastoo ammaanka lid ku ah inaysan u suurto gelin meel ay wax ka waxyeelayn karaan shirar high profile oo caynka in lagu qabto in ay ammaankii negligence waa lagu eedayn karaa laakiin anigu hadda si toos farta uguma fiiqi karo wax jirana ilaaha og laakiin mar kasta annaga cidda actively cadow dalkan ku ah oo ammaanka dalka lid ku ah oo si official u sheegata weerarada caynkaas oo kaleeta waa shabaab ilaa hadda annaga shabaab aan u nisbaynaynaa wixii ka soo hara waa waajib gudasho la'aan waa dacfi waa negligence iyo waa isku mashquulsanaanta Soomaalidu ay xagga siyaasadda iska mashquulsan tahay oo shaqadii laga rabay in shabaabka laga qabto ay dayacan tahay intaas baan ku soo koobaynaa ma dhihi kara hadda collaboration jira ama conspiracy qaarkood anigu ma rumayn karo bacdama aanan haddu si toos ah aanan xudugaal uga ahay laakiin waa jira dayac waa jira waa lagu eedayn karaa dawladda gacantii la rabay birta ahayd ama shaqadii la rabay shabaab in lagu qabto laguma qaban xogtii la rabay in ii sheegeen dabagalkii la rabay in lagu sameeyo laguma sameyn early warning iyo ka digista lagu soo digay laguma sameynin dayac waa la dhihi karaa negligence waa la dhihi karaa waa lagu eedayn karaa xil gudasho la'aan laakiin ma dhihi karno dawladda ku lug leh waxaan Abdullahi waa maasanta follow up question intaan dhageystaha kale u gudbin airportka Muqdisho oo ognahay indhihii jamhuuriyadda Soomaaliya inuu yahay waxa Axmed Madoobiye oo la yimaadeen Siciidan ciidamo 60 ah sida la sheegay in kastoon tiro rasmi la haynin baasuukayaal qaarkood wateen muunad aankay bixinaysaa jawiga noocaas ah reer hamarku wuxuu ku mahmaaha xanfar hadii jiro samanika ha ku wareegin yani hadii oo balaay ay jirto ha isku nugleynin dabcan ciidan in oo Axmed Madoobe la yimaado hub muuqdo oo fara badan oo Siciidana la yimaado waxa dareemaysaa kalsooni darrada iyo is-aamin daraanta ka jirta madaxda dalka runtii arrinkaasna eediisa waxa iska la dawladda maanta meeshan ka jirta waa la socotaan 2016kii Soomaaliya iyadoo kala maqnayn qof ciidan wadata oo baasuuka wadata oo dabajeex wadata aysan jirin qof meeshu rabo maray gurigu rabo uu deganaa jawigan qariban waxa abuuray siyaasadda hadda taagan oo ah kala adkaashaha iyo ismaqooninta taas ayaa keentay bacdama hadee lagu heshiiyay ii sheeg maxaan ku dhahaa siyaasadiina is-aamin darro iyo kala shaki fara badan oo jirana waa lagu qasban yahay in qof walba ilaa xad ammaankiisa personalka oo sugto ciidamada hadda la watana ciidamo aan fara badnayn oo boqolaal loo gaaray ma ahan ciidan units aan ka badnayn waaye waxa sida loo bomboonay ma ahan waana laga fiicnaa waxayna ahayd jawigii la isku aamini lahaa ama amaan la isku haleyn karo oo xamar la yimaado in ka dhacdo in dawladda diyaarisa ay ahayd waa gartay haddana waxaan siinaynaa Dr. Farduus waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay intii habeen u tahayna habeen wanaagsan intii maalin u tahayna maalin wanaagsan haddaan su-aashayda aan Cabdullaahi Sanbalowshe aan weydiinaya aan toos u guda galo 2016 xildhibaana u sharaxnayd musharaxaad ahayd waa taagneed waxaan ka mid ahaa guddiga doorashooyinka 2016 waxaan goobjoog u ahaa dad muwaadiniin oo musharaxiin oo erga ah oo xamar laga mastaafuriyay oo tale uu mastaafuriyay waxa kale oo aan goobjoog ahaa xergaadid oo doorashada reer waqooyigu ay ka dhacsay in dad badan doorasho maalmo jimco ah toos inta boolis loo adeegsaday doorasho lagu qabtay aniga oo ka mid ahaa dadkii joogay xergaadidka maalintaas oo banaanka loo soo saaray saalax badbaado wuxuu isku qarxiyay biis laba jeer baa qarax ka dhacay gudida qarax lala beegsaday Sanbalowshe waa joogay maalinta kama hadal maanta soo lama oran karo
waa jirjiroolo siyaasadeed maadaama uu waayey xilkii laga qaaday taliyaha nabad sugidda uu noqday xildhibaankiisina uu waayey waa cadho ka kacday xil waayis waan ka baxay su-aasheeda taliya haddaanad si fiican aan su-aasheeda u abbaari karin iska dhaaf waa abbaari karaa runtii annaga hadda election security aan ka hadlaynay personal criticism iyo waxaasaad yeeshay iyo waxaas ma yeelin kama hadlayo anigu saalax badbaadana sooma dirin inuu airbortkaas qarxiyana waa ka xumaay haddana waa ka xumahay ammaan darrana anigu kama shaqeeyo kumana farxo hadda waxaan ka hadlaynay doorasho isimarwaaga iyo duruufaha hadlaynay aniga shakhsiyan ninka waxaa la yidhi wuxuu ugu haduusan kaa filan adigaaba da' jira ma tihid haddii siyaasadda dadka aad ku geshiin xaqaa u leedahay inaad isdifaacdid xaqaad u leedahay in maxaan ku dhaha fikirkaaga aad dhiibatid si nabada oo silbi hoose problem ku jirin aniguna sideedaba ila tahay markastaa lii dhiibaa waa ka tagaa ayadoon qolahay ayadaan dadka sida qaarkiis diidan ahaan lahaa madaxa raarci lahay nin kuraas iyo jago muraad kale ma ahi waxaan aaminsanahay masabka in ilaahay bixiyo anigoo xur ah oo madaxayga kor taagayo oo waxaan rabo aan aaminsanahay aan sheegayna environmentkaas kuma shaqeeyo dawladdana ugama soo horjoodo inay jago iga qaado yes taadis maxaan dhahaa dabcan waa maxaan ku dhahaa khilaaf siyaasiya iyo sheegeen farqi siyaasiya laakiin annaga waxaan uga soo jeednaa dawladdan laguma difaaci karo mas-uuliyad darradeeda iyo in shabaabkii hadeertaan aniga markaan joogay qofka soomaaliga hebel waa shabaab u dhihi lahay hadda wuxuu leeyahay hebelow yani macallinkii iyo maxaan ku dhahaa arsenal iyo because yani qof oo tabaab soo sheegi kara lama arko aniga markaan joogay dekeda canshuur lagama qaadayn aniga markaan joogay si official dukaamada looma canshuurayn aniga markaan joogay ii sheegaan laba shabaab waa wada shaqeeyaan laysma lahayn of course dagaalaa socday maalin waa lagu riixaa maalin waxaad riixaysaa halgana ku jirta waa guulaysanaysaa dib u dhaca jira horay gadaal la isku jijiidaya laakiin anigu marnaba shaqatayda marnabana ma dayacin nin qaraar haayana ma ahi soomaalidaan hadda wada daleecaynaysa ama cid wax ka sheegaysa anigu qayb ka ahay yes farqi siyaasi waa noo dhexeeya yes waa soo wada shaqay weynay yes siyaasadahooda iyo approachgooda policygooda nimanka hadda jooga heshiis manin iskuma raacsanin farq weyn noo dhexeeya that's different one personal laakiin waxaan ka hadlaynaa waa wax objective adiga waxa lagu soo dhiibay oo ciyaalka CBB ay ku soo dhiibeen goobta aan la imaanin hello waa tahay mas'uud السلام عليكم أسمت عبد العزيز كوفير يا عطوش وسلامة تريان وسلامة سامبلوش وحارب أنا سؤال ويديو مدن أجاسمة واحد جوبجو كأهيد لنا صور شقيسي صدق دي مدحويني ودن بيسي سيدا فرماجو إنر لا شقيدي يا حسن الشيخ محمود الشريف واحد جوبجو كأهيد دور شوين كي تو ألف ك يسبتين كدعي markii uu madaxweynaadka dhamaado madaxweynaha maxay tahay doorka madaxweynaha oo ku leeyahay sugitaanka amniga doorashooyinka nothing wax mas'uul ah oo ka saaran madaxweynaha wuxuu leeyahay si oo ceremonial ah oo xurmada vacuum ka la diiday ayuu meesha ku joogaya laakiin markasta horta doorashada xukuumadda booliska mas'uulka ah waxaa mas'uulka prime minister mas'uulka wasaaradda amniga mas'uulka ah maamul goboleedyada mas'uulka institutionska maamul goboleedyada mas'uulka guddiga doorashooyinka oo markaas la isla ogol yahay mas'uulka amsomta ciidamada shisheeye kaalmeynaya gacan ka siinaya mas'uulka madaxweyne asagaaba tartamayba waaba sharta la rabo gacmihiis in la qabto asaga waa dhici kartaa yes election security iyo national security in la kala saaro inta doorashadu socoto of course vacuumka oo election national security vacuum looma ogolo shabaab waa ka shaqeynaya amaanka dalka waxbuu ka ilaalinaya talo waa ka geysanaya bacdima uu yahay commandeerkii ama taliyigooda ciidanka laakiin election security-ga wax shaqaa kuma laha because waa conflict of interest asaga ayaaba qayb ka ah dadka doorashada galaya asaga ayaa playerska ka mid ah asaga marka yani ma noqon karo refereegi iyo ninkii ciyaaraya marka madaxweynaha fadhiya waqtigiisu dhamaaday ama doorashada galaya wax shaqa uu ku leeyahay doorashada dalka election security-geeda ma jirto qaalib
maqlayaa waxaan aada u salaamayaa dhammaan dadka kasoo qayb galay shirkan qabanqaabiyayaasha iyo nimanka odayaasha ee daadihinaya taliyaha si gaaran u salaamayaa anigu markii hore waxaan u fahansanaa doorashada soomaaliya amnigeeda in shanta maamul goboleed iyo maamulka banaadir ay amnigooda si khaasa u qaabilsan yihiin booliiska iyo ciidamada amisonna ay gacan ka siinayaan laakiin sida uu taliyuunka inoo sheegay maadaama ay jirto is-aamin darro ba'an oo aada iyo aada u ba'an taliyuhuna sheegay inaan maamulada ka agdhow dowladda aan lagu aamini karin amniga oo aysan ka madax bannaanayn dowladda waxaan rabaa taliyaha inaan weydiiyo sidaas waxay u eg tahay inaan doorasho qabsoomi karin maadaama ay nidaamkaas aysan doorasho ku qabsoomi karin sida aad sheegtayna waxyaalo tuhunaba ay soo galeen ciidamada Amazon qaab noocee ayaa doorasho loo qaban karaa ma in nidaamka lagu qabanayo la bedelo odayaashii loo celiyaa ma in shir la isugu yimaado oo ciidamo cusub oo ilaalinaya oo ka madax bannaan dowladda la sameeyaa marka waxaan kaa rabaa waxaan jeclaan lahaa tali su-aashaada toos u gal waa u gelayaa taliya waxaan weydiin lahaa ma in nidaam cusub la sameeyaa oo amniga doorashooyinka lagu sugi karo mid labaadna waa ku darayaa oo waxaad sheegtay in ma jirto su-aal labaad waa mahadsantaha maya clarification halkaa uga baahnaa taliyaha waxaan jeclayaa inaad aad noo caddaysid waxaad sheegtay in ciidamo badan oo ajnabi ah tuhun dalka uga baxeen waxaana soo hadal qaaday kuwii maraykanku ma waxay dalka ciidamadooda ugala baxeen 3 daqiiq 2 daqiiq wax ku eegan haysataa soo gaabi su-aashaada hore u gal ma waxay uga baxeen ciidamada maraykanku tuhun ay ka qabaan qaabka doorashada soomaaliya loo maamulayo waa ka baxay عبد العزيز سنبلوش عقوالي هلو سنبلوش حياتي ما مقشع واكم مغلا هذه مغشع ها هي سؤاشي جوابتي قالبة لغا سوغيا in horta maanta ismariwaaga siyaasadeed oo taagan iyo heshiis la'aanta siyaasadeed oo la xiriirta doorashada si sahlan hadda jawaabo sahlan la iskuma siin karo waa very complicated way waa adag tahay way laakiin waajib way tahay in laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo si kasta loo turxaan bixi karo qaladaadka iyo tuhumada jira loo turxaan bixi karo in la iskaga yimaado oo la dhameystiro arrinkaas waa lagu qasban yahay dabcan waa in la soo celiyaa kalsoonida lagu qabay institutionska doorashada sida guddiga doorashada hay'adaha ammaanka AMSOM maamul goboleedyada madaxdooda iyo sheegeen maxaan ku dhahaa institutionadooda waxaasoo dhan waxay ku qasban yihiin meeshaan doorasho la kala xoogaayo ama la isku dilaayo in la qabto wax micno ama samaynayse doorasho nin walba nasiibkiisa uu ka qaadayo qof walbana markuu galaayo rajo ah inuu guuleysan karo haddii laga guulay daraystana uu dareemayo cadaalad inay si cadaalada oo aanan hadda la gacan bidxayn ama aanan loo xoog sheegan ama aan la gacan marujin ay ku dhacday jawi ah inay abuuraan ayaa loo baahan yahay aniga shakhsiyan easy answer ma hayo laakiin waxay tahay sidaan sheegaba kow guddiyada hadda la sheegay oo ayaan dhaweyd muran ka taagnaa oo kalsooni darrada laga muujiyey wixii dowladda shaqaale ka ah iyo wixii hadda aan capacity aan lahayn laga saaro wax heshiis lagu yahay lagu bedelo muuqata oo heshiis lagu yahay oo qof walba uu dhinaca ka taagan yahay doorashada lagu qabto waa muhiim dabcan doorashada kalsoonidii waa dhamaatay aniga haddee magic answer ma hayo oo waxaasaa la sameynaa ma dhihi karo laakiin waa lagu qasbayahay madaxda maamul goboleedyada qaasatan kuwa lagu tuhmaayo inay gacan saar ka leeyihiin dowladda waa in kalsooni waana meesha dhibaatadii colaadu ka taagan tahay waana meesha ismarwaagu ka taagan tahay wax kastaba ahaadaan puntland iyo jubbaland waa dad ismaamuli kara shar iyo khayr ayagu waxay qabaan iyo waxay soo sameeyaan ayaga mas'uuliyadda ay leeyihiin laakiin meesha dhibaatadu ka taagan tahay waxay tahay maamulada gacan saar kale leh dowladda oo aanan mar laba develop garayn capacity ay isku maareeyaan oo ay mas'uuliyadda ay ku haltaan ama ammaanka ama doorashooyinka
ama ii sheegeen maxaan ku dhahaa maamuladii iyo adeegii loogu talagalay marka in laga wada hadlo qalaadka jira la saxo dad integrity oo lagu halayn karo yani sharafta iyo integrity-ga doorashada oo credible ah loo soo adduunka dad madax bannaan iyo Soomaali madax bannaan ishu ku hayso monitor garaysa la sameeyo conflict resolution ama haddii la isku qabsado habkii loo xalinayo waxaanay cad yihiin I think in wuxuu is sahlanayn Mareykanka dabcan Trump ayaa go'aankaas gaaray laakiin waxyaabaha ugu weyn ee rajada laga qabo ay maxaan ku dhahaa ay ku baxaan waxa kamid in aysan rajo ka arkin dadaalkooda iyo shaqada ay hayaan in wax weyn oo horumar in laga gaaraynin dadkan aysan u diyaarsanayn in howlahooda ammaanka ay lahaadaan ama ayagu ay gacmahooda ku qabsadaan waad maasanta cabdo sambalolsho waa maasanta waqti ma hayno waxaan rabaa meesha inaan su'aal ka weydiiyo waxaa tiraaday marka Puntland iyo Jubbaland laga soo tago maamuladan kale amni ama hay'ado adag ma haystaan dhanka kalena waxaad leedahay dawladda gacan saar la leh maxaa diidaya galmudug oo kale maadaama bardhow la dhisay Hirshabelle sidoo kale inay dawladdii ku kabto ciidan iyo amni iyo gacan ku haynba maxaa diidaya wala ma diidana laakiin waxa la rabaa dawladdu koow in ay excessive ciidan dheeraada oo loo baahnayn oo aan election-ka faragelinayn waa siin kartaa laakiin waa inuu ciidanka booliiska oo ahaado no haram cad no gorgor no ciidamada booliiska federaalka ah iyo ciidamada booliiska ee maamul goboleedyada iyo booliiska halimacad waa special forces waa ciidan si qaas loo tababaray waana ciidan loo tababaray in oo argagixisada la dirka iyo howlo qaas loo tababaray haddii haatan laakiin waxay leeyihiin sumcaddooda waa dhaawacanta waa kuwii qayb ka ahay dagaalkii 19 February madaxdooda ay sheeg maxaan ku dhahay shirarka kaleeto oo waaweyn u dhacay ay qayb ka ahayn lagu tuhunsan yahay dad kalsooni dadka shacabka Soomaaliyeed isqayb ku qabaan ma ahan waa kuwa loo isticmaal caburinta يعني سمعتوده iyo historygooda ma fiicna to be honest maybe amaanka iyo shabaab la dirarka iyo waxaas inuu ku fiicnaan lahayn markii ay timaado siyaasadda iyo doorashooyinka waa dad si toos ah ay u isticmaalaan dawladda hadda jirta sambalolshe su'aal sharci ah oo amniga la xiriirtan ku weydiinaya yaa amar bixin kara ama haricmaad ha ahadan ama boolis ama gorgor inay howlgalaan yaa bixin kara ma maxkamad ما دعوة سؤالها دلك مثل تلياشة هيئة حكومة. It depends وحال السمينا هدي قفل سوحرايو طبعا وقف كاسو إنه وحكوحر أنت إذا قطرت قف كاس كورمانيس مركزته إذا ماذا بوليسكا إذا ماذا وإنه نظام شرعي كوش غيان وقف كي حيران وارنت أو فرست أو جرو أو محكمة أي سميسد كوا أن لقى جاري كرين قطرته ده درتود أما mark ugu horeysaba taba wanted laga dhigay oo gacanta soo galay ama ayagoo faraha wixii kula jira la qabto waa meeshooda laakiin markasta rule of law waa in ay observe gareeyaan ama ilaaliyaan ciidamada ammaanka markii dagaal tahana cid amraysa waxay tahay waa madaxweynaha markii weerar qaadaan dabcan difaac iyo mar la soo weeray in isdifaacana taas waa shukr ala waajib waa self defense ayaga ayaa isdifaaca laakiin koow taliyaasha مسؤولية ليه إن أمران عظمة حولها يقبنا عيان أيها مسؤولية كوبات إسكال لبا محكمتها قريبة كي مركي ضد بيليالا أما وح شرعي الحريرة الوصول قبنا يتسدح دجال جود مركل فصحة مدحوينها يجود أمن قرن كإسكال مسؤولية أمان وين تاي لكن ما لها أي مرتاح. واد ما سنت لبا تصالن كوسو قادنا يا دلدلك دهسون waxa tagay dhashiikayaal uu wato inda cadde oo hay'ad amniyo uu ka tirsan yahay aanan ogeyn in gorgor la geeyo si baabuurtaas cidna aanan maamulin looga difaaco daldilka dahsoon oo wadnihii caasimadda ah maxaa diidaya inda cadde horta waa nin shakhsi ah cid cadeynaysa dhashiika ilaalinaya meesha inuu tagay waa jira laakiin inda cadde dhashiika uu leeyahay ma oolin daljirka dahsoon mana lagu soo weerarin weerarkaasna qayb kama ahayn dadka meeshaas lagu soo weeraray waxay ilaalinayeen madaxweynayaashii horeeto ee dalkan oo xukunka si nabada ku wareejiyay oo doorasho xalaal iyo xoreen qabtay oo moral high ground leh ilaalinaysay oo immunity siyaasadeed iyo mid sharci ay lahaayeen ay ahaday inda cadana hadda shakhsi amaankiisa ilaalisa kara laakiin goobtaas mana joogin hadduu tagana saacadaas waa ka maqnaa waxaan u gudbaynaa qofka kale cabdullaahi
مان عبد الرحمن علي حسن مان سبيكر كفرو waa laga horeeyaa khadra ka horeeyo khadar hay kuma jiro cabdiraxmaan odowa waaya bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamayaa taliyaha aad iyo aad buu umahadsan yahay runtii waxaan kaloo salaamayaa tiimka daadihiyaasha oo mawduuc carabtu ay tiraa mawduucu saaca ama waktigan wixii in laga hadlaay ahayd raaliga hada malay maqlaa ha si fiican cabdiraxmaan soco marka taliyaha waa unu mahad celinayaa iyo intiina kaleba waxaan rabay inaan hal arrin oon aad muhiim ah hoosta ka xariiqo intaanan taliyaha su-aashiisa u gudbin taasoo ah doodan hadda ku saabsan security-ga doorashooyinka waxaan isleeyahay waxaa qaybta ugu muhiimsan horta asal ka ah kalsooni darrada ka dhalatay isticmaalka qaldan ee ciidanka la isticmaalaya 4 sano ee lasoo dhaafay markaad u fiiriso sidii loo isticmaalay ama baydhabo ama kismaayo ama dhuusamareeb ama meelo kale oo xamar ka mid ah markaa u fiiriso kalsooni darradii oo aruurtay yaa waxay keentay in doorashadii ay u muuqato in oo ay u baahan tahay in gacanta nidaamka hadda jiro madaxweynaha farmaajo ama in lala maamulo ama sidaan si aan ahayn ay noqoto haddii marka loo laabto 2016 ama 2012kiiba ma islihi mana lihi khaladaad ma jirin laakiin waxa asal ka ah kalsoonida guud ee election security-ga lagu qabo labadaas marba waxaa muuqatay in qaylada security-ga ama kalsoonida ku saabsan dadka maamulaya doorashada ay kalsooni sare ay haysteen taas marka ayadana waxaa sabab u ahayd kalsoonidaas dadka siday dhisteen sidoo amsan bulsho sheegay ha noqoto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isbalance garan jiray ama tii 2012 ama tii 2016 ama ha noqoto madaxweynaha oo markaas haddii laga dalbado talaabooyin ah inuu wax ka qabto xadgudubyo ciidanku la yimaadeen wax ka qaban jiray ama sidoo hadda sambulasho u sheegay ama jenaraal maxamed sheekh oo taliyaha booliska ah u sheegay hadda marka waxa taagan waxay tahay ayadoo waqtiga doorashada lagu jiro dawladda waqtigeedii dhamaaday yay dawladdu waxay hubkii iyo qalabkeedii u isticmaalaysaa dadkii kursiga kula tartami lahayd madaxweynaha meesha marka kalsooni darrada iyo iimaan darradu ay ka imaanaysaa waxay tahay haddii mudaharaadkii la diiday haddii xafladihii la diiday haddii qofkii kursiga rabay uu u muuqdo berri maxaa diidaya xildhibaanka kursiga raba ka raba kamidalooyinka doorashooyinka ka dhacayaan in loo diido kow labo maxaa diidaya musharaxii mudaharaad inuu ku qabsado daljirka dahsoon loo diiday oo taangiga la hordhigay in gurigiisa taangiga la hordhigo haddii marka aan su-aalahaas la xallinin doorashada uu rabo nidaamka hadda jira waxay noqonaysaa doorashadii ama Ethiopia ka dhacday ama aanba dhicin doorashooyinka la diidan yahay marka aniga waxaan isleeyahay taliyo asagoo mahadsan meesha uu loo baahan yahay marka in laga hadlaa waxay tahay exampleski hore oo ahay 2012na waxay ahayd madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo laba garab ahaa is ag socday iyo waliba gudoomiyihii baarlamaanka markaas 2016na dowlad goboleedyada oo wada socda oon kala soconin oo sida hadda ah adiga ila socday adiga ila mas'uuliyada waxay isla ogolayeen election security-ga dabcan oo 2016 waxa ku jiray dawladda federaalka dawlad goboleedka iyo Amazon booliska oo markaa joogi jiray ma ahayn Amazon waliba oo military-ga ma ahayn hadda marka meesha hadda kalsooni darrada ka jirto oo iska dhaaf adiga in doorashadii laga heshiiyay waxay maraysaa sida hadda su'aalihiinaba adinka aan ka maqlaayay in 120 ciidan ay la yimaadaan madaxweynaha dawlad goboleedyada ama hub culus oo sawaariikh oo sida basuukayaasha oo qofku soo qaato wax kalena ma ahana haddii madaxweynayaashii xilka ku wareejiyay madaxweynaha hadda xilka ku fadhiya ama waqtigiisu dhamaaday uu basuuka iyo taangi la dhacay maxaa diidaya inuu ayagana la dhaco maadaama ay mucaarad ku yihiin waxaan isleeyahay marka anaga haddaan nahay dadka hadda daneeyayaasha siyaasadeeda kuwa ku jira iyo kuwiina dhegaysanaya intaba dilemada ama xariga in la furo u baahan oo taliyuhu inuu bidhaamiyo u baahan waxay tahay meeshaas sidii looga bixi lahaa marka taliyaha aniga su-aasha markaan soo koobo waxaan dhihi lahaa taliye meesha
qodobka koowaadna wuxuu yahay asaaska ka kalsooni darro qodobka labaad oo adiga laga sugaano wuxuu yahay way outka sidee looga bixi karaa hadda caqabadii waa ujeednaa inay madaxa iskula jirto jidka ugu macquulsan adiga khabiir amni maadaama aad tahay oo looga bixi karo waa jidkee waa mahadsantii cabdullaahi sanboloshi intuusan jabta qaadanin waxaan rabaa inaan sharxo qofkaasi hadlayay waa cabdiraxmaan odoba xildhibaan laga soo doorto galmudug kana tirsan baarlamaanka federaalka xisbiga xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayana xubinka ah ka soco sanboloshi soco jawaabta waa aad iyo aad u mahadsan tahay commentigaaga iyo interventionkaaga waa ku mahadsan tahay soomaalidu waxay tiraahdaa awr kala guurtay uurar kala guuray ayaa ka xun yacni haddii يعني رير أي مالك كل جورة أما جيلو مالك كل جورة وحكدرن يعني ضد أما ضد مود الدجان أو اسكون يدحون وعن مرنا بقى يسترتقل هين إنه شيئان هرت ماشي عن سيدا شيء كتبه أبكي دول الدلو ضد دول ما صداها نين مدحوين البرومي أما نين مدحوين الدلي أو إيشيء ولي بنيكي حكم كوري جيها أما نيكي سياسة السوق جليا هرت حلبان مسكينة أو طول الجوجا أو قبل الجوجا قفل صوت ترى سلام عليكم سياستنا أساس واحد وحليها fundamental rights وحكمها political immunity قفك وإنه حسانات سياسية أولهي أو حر يهاي إنه campaign جريو إنه ضدك engage جريو إنه حاجة ضدك جارسيو إنه نقاقو راليس إنه قبته شرر إنه قبته هدي أنت سجرين معناه هذا الديمقراطية jirto meeshaas doorashana kama jirto xornimana kama jirto wax sifir raad sileena kama jiraan waxa cabursan oo lagu dagaalayo waxay tahay ko waxa la rabaa dawladda hadda jirta qalad ma ahan fulinimana ma ahan in aad qirato qaladkaaga waliba waa waajib meesha ay tahay inaad qiratid oo tiraahdo iga raali ahaada inay tiraahdo wixii dhacay waa dhaceen from now on apology aan ka bixinayna mana dhici doona assurance hor dadka in la siiyo space ko in la furo officially dawladuna waa in ama prime minister kan noqoto ama madaxweynaha noqoto special madaxweynaha in si official dawladda ay u tira political space ko furan yahay qof fasaxiiso qaaday iyo maqaayada markaa ku jiray waqad keenay waxaas wax ka jira lama arko waa in meeshii rabo lagu mudaaraad karo qodob waay qodobka kale tan waxay tahay waa in ciidamada madaxda hadeertan qaasatan kuwii xadgudubka galay ama amrada qayb ka ah ilaa hadda ciidamadu tilaaleeyeen 19 February ama waa in public apology baxshaan public declaration sameeyaan siixaan inaysan siyaasadda election ka qayb ka ahayn kaliya amaanka qaranka ay ka shaqeynayaan ama haddii suurtagal tahay in laga qaado xilka oo ama la suspend gareeyo haddii aan yani cawaaqib aysan ka dhalan talaabooyinka qaldan iyo danuubta iyo gafafka la galaayo micnaheedu waxay tahay in sheegeen maxaa la jiray lamacanaataana caanidash yani qof wax loo qabsanayo ma jiraan marka talaabooyinka aniga aan qabo waxay tahay wixii hadda ka dambeeyay in la heshiiyo ciidanka qaasatan xoogga inaba sugidda inaysan marnaba siyaasad shaqo ku lahayn sidii dastuurka ku qoran hadda kadibna election iyo wax la xiriira aysan soo faragasho doonin taliyaasha hadday suurtagal tahana publicly apology u baxshaan publicly declaration ay u sameeyaan ama suspension lagu sameeyo bacdama ay hadda waad maasanta cabdullaahi soo koob maasanta jawaabaha soo koob 2200 oo qof madasha ku jirta waan u hambaliyaynayaa waa runtii wax weyn oo lagu farxo weeyaan cabdicasiis waxaad u baaqdaa dhegeystayaashiga cabdicasiis soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي موجود السلام يا sidoo kale waan salaamayaa taliyihii hore nabad sugidda su-aashaan weydiinaya taliya waxay tahay security qusaysa taliye haddiiba ay dhacday intii aad adigoo laba jeer ka soo noqday taliyaha nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya dhibaatada ugu fara badan leh iyo cawaaqibka ugu fara badan leh aragnaa waxa weeyaan dowladdan hadda jirtaba anigoon ka hadlahay waqtiga la joogay hadda ay isugu kaayimid tahay nabad sugidda la yiraahdo ee aad adigu aasaaskooda qaybta weyn aad ka soo qaadatay meel walba ka shicib ahaan waxaan aragnaa iyaga oo magaalada dhex maraya ku faanaya nabad sugid baanahay halkan la maraya aan annagii ka warhayno adduunka ma jirto meel ay ka dhacdo ciidanka security nabad sugidda meel lagu taamo ama lagu faano la yiraahdo nabad sugid baanahay waa sirta quraatay wadanku leeyahay ama dawladdu leedahay su'aasheedu markaa waxay tahay taliye
maxay tahay sababta kalifaysa inuu ciidanku soo gaadho heer ay ku faani karaan ciidanka special ciidanka nabad sugidda ay ku faanayaan anigu waxaan ahay nabad sugid se laakiinse cawaaqibka xun ee waddanku uu ku sugan yahay in ay tahay inaanay hay-addii securityka adduun u qaabilsanayd waddanka horumarka u qaabilsanayd ama ilaalinta nabadgelyada waddanka u qaabilsanayd aanay qarsoonayn maxay tahay cawaaqibka aynu kaga gudbi karno aynu lagaga bixi karo maanta heerka uu marayo ciidanka nabad sugidda ee dhisan thank you so much inkastoo aysan hadda electionka ay si toos u qusaynin su-aashaas haddana ciidamada nabad sugidda horta duruufta hadda jirta waxay tahay waa counter tourism aniga ogaantay waxaa loo sugidda ammaanka iyo waxaa loo isticmaalayay ii sheeg argagixisa la dirarka shaqada aniga markaan ogaana waxay aheeday ammaanka inay ka shaqeeyaan iyo waxa khatarta ammaanka qaranka ku ah marnaba in loo isticmaalo aniga sababta aan uga tagay shaqada waxaa ka mid a haddana mar raba inaan sheego in anigoo taliyaa madaxweyne ka mid a madaxweyne goboleyaasha ay dowladda xilka ka qaadaysay ciidankii aan madaxdu ahaa la yiri ha soo qabto waxaana la soo xir oo aniga aan diiday waxaa ka mid a in la yiri idaacada magaalada ku yaala in la yiri soo xir oo hala soo qabto oo aan iri haddii anagu shabaab aan ka shaqeynay saacadan kama shaqeyna idaacada xirow waxaa ka mid a xildhibaano meelo ay joogaan in la weeraray oo anigu aan diiday waxaa ka mid a siyaasiyiin ii sheeg waxaan ku dhahaa in la yiri wax hadda la samaynayo dhan markaan joogay inkastoo wax bilaaw ahaayeen waa la isku soo qaaday resistance ayaan ka muujinaya hadda marka duruufaha keenaya waxay tahay booskii booliiska ayay ku jiraan ciidamada actually waaba loo soo wareejiyay hadda haram cadkaan iyo waxaan kaleeto hubaysan iyo waa laga soo wareejiyey intaa ka warqaba hadda ciidamada nabad sugidda hadda kuwooda inta badan marka laga tago kuwa oo ii sheegeen maxaan ku dhaha xoga aruurinta iyo kuwa hadda howlo qaasa loo sameeyo iyo kuwa ilaaliya goobaha hay-addu ay degan tahay moogaane hadda ciidan nabad sugid oo xoog leh oo fara badan ma jiro laakiin kuwaas naftooda ama marka qaarkood loo isticmaalaa howlaha siyaasadda iyo howlaha doorashooyinka iyo howlaha caburinta kasoo qaba 19 February nabad sugidda ciidankooda waran taliyahoodii loo rabay in la yiri weerar Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waa diidiyay ciidanku meesha ka saaray kadib ayaa la keenay gorgor iyo maxaan ku dhahaa ciidamadii kaleeto waa la fadhiisiyay waa la ganaaxay muddo kadib la soo daayay ilaa haddana waxaan la soconaa in ciidankaas hadda uusan xoog u dhex jiro ciidanka la yiraahdo waran howlahan oo ciidamo qaas oo kaleeto meel qaas oo tuhun ku jiro laga keenay la hubeeyay booskoodina la soo gashay hay'adaha kaalmeena ay yiraahdeen ciidamadaas ii sheeg maxaan ku dhahaa kama qayb qaadan karaan howlaha ay sheegeen khalkhalgelinta iyo howlaha siyaasadeed marka dabcan dowladnimada guud ahaan isma ku socota hay'aduhu si kulligood wixii loogu talagalay kama shaqeeyaan laakiin qofka mas'uulka la rabaa si mas'uuliyad ku jirta awoodda dowladda awoodda ciidamada iyo awoodda in suushka loo dhiibay inuu isticmaalo santaay cabdiraxmaan cali xasan maan waa dhowahay dhammaan waa salaamantiin asxaabta horta waa laga horeeyaa ninkee waa laga horeeyaa halo فرحان رالي هاو هي رحمة الرحمن وحير نوض القاضي رحمة كوريس رحمة سعود وما سنتهين عبد العزيز عبد الرزاق iyo عصمت عبد الله وسلام يا إلى ما أصحابته اللي جسنيسو مدن محارب إنا كويتيو سؤال لحريرته قضبضي 10 سبتمبر heshiiskii 17 September 2020 gaaray qodobkiisa 10aad waxaa ku qorneyd in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha amniga federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah haddana waxaa muuqato inayna si wadajir uga shaqeynin oo dhibaato ay ka taagan tahay oo heshiiskaas gadaashiisa ay dhibaatooyin kala dhaceen caawa tala sidee u haysaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah si ugu wada shaqeeyaan amniga doorashooyinka waa su'aasheeda koowaad talabaad waxaan rabaa inaan ku daro waa ognahay Soomaaliya taariikh hore ugu soo qorantay hadii ciidanka siyaasadda ay faraha la galaan in dhibaato badan ay ka dhici karto 19 February dib weyn dhacay murashaxiintu waxay dalbanayaan in taliyaashaas la casilo ama is casilaan ama xilka laga qaado sidee u aragtaa adiga hadii la dhaho waa la casilaa ama waa xilka laga qaadaya yaa soo magacaabaya kula tahay ilaa guddi maxaan ka hadlaynaa amniga doorashooyinka amniga doorashooyinka wax sahlan ma ahan adigana aqoon fiican u sii leedahay yaa u soo magacaabaya hadii lacala is casilaan su'aasha sarana ku weydiyo tii horena waa teedii waa aad iyo aad u mahadsantihiin mac salaam رحمة وحنا ملايا شوري عبد الله وكجوابي مركب وقتي أنا هيا عبد الله طلبات آد
haddii aad ku talinaysaan in taliyaasha laga qaado yaa soo magacaabaya horta actions have consequences ficil kasta oo adigoo mas-uula aad samayso natiija ka dhalata cawaaqib uu leeyahay waa in lagu xisaabiyo annaga haddii ay dhacayso in taliyaasha xilka laga qaado lama soo magacaabayo automatically nin walba ninaan ku xiga ku-xigeenada ayaa hawsha sii gaarsiinaya sida xukuumadda iyo dowladda oo dhanba xil gaarsiin ay sii tahay su-aashaas aan jawaabkaaga aan follow up ka sameeyo maalin markaad furaysay dooda waxaa tusaale usoo qaadatay doorashooyin aanan lagu heshiinin oo gobolka ka dhacay gaar ahaan wadamada deriskana ah oo dhibaato ka dhacday kenyana tusaale usoo qaaday marnaba mucaaradka kenya maysan odhanin nabad sugid iyo boolisba hal la bedelo maxaa idinka hadda aad labadan qof u bartilmaameysanaysaan marka horta kenya waxay ka dhacay post election conflict uu ahaa mar hadda yaa already la dagaalsan yahay oo maxaan ku dhahaa cid ka qaadaysa cid aysan jirin ayay aheeday oo already booliiska shaqadu qabsanayo oo dagaalka ama active ka yahay ama uu ku marmarsiinayo ammaanka qaranka u ilaalinayo hadda doorashadii oo la gelin ayaa ii sheegeen maxaan ku dhahaa shil ku dhacay xadgudubka ay sameeyeen taliyaashu ciidankii si qaldan loo isticmaalay si sharciga ka baxsan loo isticmaalay dad aan mudnayn oo hadda ammaan qaran threat aanan ku ahayn national security-ga loo isticmaalay tartamayaal madaxweyne ama dad si nabada inay doorashada uga qayb qaataan la isticmaalay dad aragtidooda ka cabiraya doorashada iyo doorashada dib u dhacday oo raba inay mudaharaadaan loo isticmaalay waxay tahay pre-election conflict doorashada intaysan dhicin ayaa xadgudub la sameeyey awoodii dowladnimada iyo awoodii ciidamada si qaldan oo ammaanka qaranka ka baxsan loo isticmaalay marka kenya sababta loo dhigi kara waxay tahay waa og tahay dowladda waa lagu heshiiyey labadii daraf ee dagaashay ay isdishay raylana wuxuu noqday prime minister ninka la yidhaahdo kibakina madaxweyne noqday dowlad coalition la yidhahdo ayaa la dhisay waa lagu heshiiyey markii dambeeto finally taliyihiina meesha waa laga qaaday markii dambeeto aada u mahadsan tahay waxaan xasuusinaynaa dadka gadaal nooga soo biiray madashan su-aalaha iyo jawaabaha in mawduucu uu yahay maxaa ka dhalan kara natiijada ka soo baxday ka soo bixi karta doorasho lagu muransan yahay cabdullaahi sambalolshe marti noogu ah waxaa farxad noo ah in 2300 ay ku dhegaysanayaan sambalolshe dhegaystaha xiga bismillah waxa waa farxaan waaye waan salaamayaa marka hore waxaan u mahad celinayaa horta mudane cabdullaahi sambalolshe taliyii hore nabad sugidda sida geesinimada leh shacabku uu hor yimid waxaan filayaa inuu yahay siyaasigii shanaad ama lixaad ee club house shacabka fursad u siiya in su'aalo ay weydiiyaan yes mawduuc baa catoosho meesha idinkugu dhegan laakiin anigu sidaan fahamsanahay election waa siyaasad waa political securityna waa siyaasad xilli doorashaa lagu jiraa arrinta laga hadlayana waa arrin amni marka su'aasha aan soo wado waad iska diidi kartaan waad dhihi kartaan mawduucan kama tirsana laakiin waxaad ogaataa ama aad ogaatiin kulligiina catooshow in ay noo furi doonto waddo ah in siyaasigu uu inta yimaado club house uu yidhaahdo su'aashaas layma weydiin karo marka laakiin su'aasheeda mar walba waan tuuranayaa in microfonka laga xirin waxaa jirtay in taliyuhu uu dhiibay qalbi dhagax xilligii uu madaxda ka ahaa nisa qalbi dhagax waan ognahay ONLF ayuu ka tirsanaa xukuumaddii uu ka tirsanaa oo xilligaas uu sambalolshe ka mid ahaana ONLF waxay u aqoonsatay urur argagixiso oo al-shabaab la mid ah waddanka deriska nala ah arrintu waa political waa regional waa election marka waxaan rabaa marka taliyuhu dhowr jeer waan ogahay inuu ku celceliyey meelo fara badan uu yidhi ma jecli inaan arrintan ka hadlo marar badan uu yidhi anigu waxaan ahaa taliya nabad sugid wixii la ii diray un baan qabanayay laakiin caawa su'aashaan weydiinaya waa mid weligii daba taali doonta haddii aanu ka jawaabin xitaa marka waxaan weydiinayaa yaa amray dhiibistii qalbi dhagax madaxweynahaas madaxweyne farmaajo muxuu ka ogaa waan ka baxay cabdullaahi sambulos waxaan rabaa su-aasha sidii farxaan u ahaane oo maaragtay inuu ka jawaaban jecla laakiin inta hadda ku jirto iyo inta kusoo biiri doonto ha noola ogolaado in isla su-aashaan aysan soo noqon
marka farxaan hadda waan u gudbinaynaa maadaama aysan mawduuca ka mid ahayn oo aad ka afeefato aad tiri yaan mud la isaarin maaragtay su-aashanu taliyaha waa daba joogaysaa marka su-aashaanu ha noqoto su-aashii micnaha ugu dambeysay oo ah oo laga weydiyo sababtoo ah haddii la weydiiyo waa la weydiiyey khalaas ku soco cabdullaahi sanbalosh horta waa mahadsan tahay horta aniga meeshaan maxkamad ma saarani waxaan jeclahay inaadan judge ahayn specific interviewna ima warsan oo ku saabsan dhiibista iyo qabashada qalbi dhagax hadda ka hor waa sheegay aniga dhiibista qalbi dhagax igamana bilaabanin igumana dhammaanin waana la ogyahay in xukuumadda markaas jirtay ay officially argagixiso ku tilmaantay ii sheeg maxaan ku dhahaa ONLF haddii mas-uuliyaddaas inay iga weyn tahay ama maxaan ku dhahaa waa la ogyahay qaybtii aan ku lahay waa qirtay raaligelin ayaan ka bixiyey marnaba laigama sugaayo hebelaa dhiibay anigu shaqo kuma lahayn hebel shaqo kuma lahayn saanay wax u dhaceen haddii aanan qofka marka hore ka heshiinin interview meelahan oo kaleeta inaan arrinkaas ku dhiibo marnaba rajayaan laga qabin okay follow up ku weydiinaynaa sidaad sheegtayna dabcan ma soo noqon doonto su-aal walba horey lagu weydiiyana ma soo noqon doonto qaladka labaa lagu sameeyey midna cabdikariina lagu sameeyey qalbi dhagax shakhsiyan midna ururkii ONLF oo markaa jabhad ahaa haddana xisbi ka diiwaan gashan political party ka ah Ethiopia joogto labadiiba ma raaligelisay maadaama aad hadda meeshan ka leedahay waan raaligeliyay cabdikariinna gooni raalli ah ma tiri ururkiina ma raali aniga horta golaha wasiirada kuma jirin dadka oo go'aan ka qaatay argagixisada ay sheegeen waa la yiri aniga golaha wasiirada xubin kama ahayn go'aankaasna qaybna kama ahayn cabdikariin qoyskiisa iyo ONLFna si publica ayaan doorkii aan ku lahaa ku raaligeliyay gaaladu waxay dhahdaan one fact change I change haddii duruufta siyaasiga iyo marxaladu isbedelaan qofku waa isbedelaan nothing is static wax joogta ma jiraan nolosha siyaasaddu waa dhaqaaqaysa qofku qalad uu galaya biri wax ka wanaagsan uu sameynaya haddii uu nool yahay qofka mas'uulka ahana dan shakhsi kama shaqeeyo dan guud oo ka shaqeeya aniga doorkii aan ku lahaa ka mas'uul ahaan waan garaabsanahay waan ka garaabay raaligelin ayaan ka bixiyey laakiin afka ayaan farta la ii gelin oo lay dhihin madaxweynuhu muxuu ku lahaa iyo hebelow ku lahaa yaa dhiibe iyo taasna haddii baarlamaankuna maruu iga interview gareeyey interview badan oo arrinkaas la xiriiray waa baxshay aniga waa qirsanahay ii sheegeen maxaan ku dhahaa in qalad oo siyaasi uu dhacay laakiin hadda yaan lay dhihin aniga specifically cid inaan maxkamad ku soo shoogo ama cid madaxdeeda ah oo markaas wada shaqayn ay naga dhaxaysay inaan farta ku fiiro waad soo koobtay aada u mahadsanta cabdullaahi sanbalowshe dhegaystaha xiga xuseen aan jeclay inuu yahay maya xuseen maahan cabdiraxmaan waaye maan dhammaan waa salaaman tihiin dadka ku kulansan madashan hal su-aal aan u qabaa taliya aan rabaa inaan weydiiyo sida aan ognahay horta dalka soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay qaab federaalism ah marka dowladda dhexe si doorashadeeda u dhacdana waxay kasoo bilaabataa maamul goboleedyada in lasoo dhiso marka sida hore dadka dhan u wada ogaayeen maamul goboleedyada qaar wixii ka dhacay doorashooyinkooda waa la ogaa siyaasiyiintii la tartami lahayd oo u diyaarsanad in la tartamaan madaxweyneyaasha hadda jira qaar ka mid ah waa la ogyahay wixii ku dhacay markii ay tageen meelihii ay tartanka u tageen marka dadka hadda rabo siyaasadda inay qayb ka noqdaan ama musharaxiinta ah ama dowladda mucaaradka ku ah iyo weliba marka lagu daro beesha caalamka waxay goobjoog u ahaayeen ama ay ogaayeen sida meeshaas ay wax uga dhaceen kadib waxaa dhacda inay ku qancaan wixii ka dhacay meeshaas loona aqoonsado madaxweyneyaal dadkii ka soo baxay meeshaas marka maxaa maanta sababay in xaaladdu ay heerkaas gaarto oo uu waddanku khatar galo oo la yiraahdo doorashada hadday dhacdo oo qolo gooni ay wax doorato dagaalaa ka dhacayo marka maxay tahay wixii aan loo jeedin awal oo maanta la arkay su'aasheeda intaas waa horta electionka gobolada iyo election nationalka isku mid maahan the stakes are high marka oo national electionka ama doorashada qaranka la joogo dabcan markii dawladdu ay mandatekeeda uu waqti badan ka dhiman yahaana kaadi badan waa loogu golbadiyaa dulqaad fara badan iyo qaladaad fara badan oo loogu dulqaadan waa jirtaa waxaan asal waxaa dowladnimada inay socoto electionna sideedaba haddii qofka kaasoo horjeeda oo aqbalo oo kuma saamaxo ama oo ku aqbalana hadda qofkii markaas la doortay waa iska official
dhuus meeshii la yidhahdo dhuusamareeb dabcan qoorgoora lagu doortay keligiisa lagu doortay intii la tartamaysana markii dambe waa u tanasuleen waa u hambaliyeeyeen ballanqaad inay la shaqeynaa ay muujiyeen cabdiraxmaan odawaaya ka mida mar dambey wada hadal yeesheen waa heshiiyeen dowlad coalition wadaaga uu dhisay oo lagu heshiiyey ana waxaan qabaa si fiican inuu handal gareeyey ninka la yidhahdo qoorqoor meesha la yidhaahdo dhuusamareeb iyo wixii ka dhashay doorashadaas laakiin taas in lagu dabaqo tan qaranka wax la aqbali kara maaha يعني waxyaabo dad waxa jira wax yar yar buunbuunaya wax waaweyna raba inay hoos u dhigaan qaarna wax waaweyn ay rabaan inay hoos u dhigaan oo wax yani annaga waxaan u baahanahay tan nationalka waa lagu mitidaya qof laga yeelayo inay daqsato ama ay sheegeen xoog kuma quurisato ama ay power ku qaadatana ma jirto marka electionka galmudug iyo tan hirshabeelle iyo tan maxaa la dhahaa south west iyo tan qaranku isku mid ma ahan wixii xagga loogu soo samray ama indhaha loogu soo qabsan tan indhaha loogama qabsan doono haye tera aad ayaad u mahadsan tahay si weyn waxaan run ahaan kol koowaad u bogaadinayaa saaxiibkay cabdicasiis korofyare oo runtii daadihiinta doodu ay ka duwan tahay doodo hore oo albaabka u xidhnaa sidoo kale cismad catoosh mar kale waxaan bogaadinayaa in cabdilaahi hor yimi dhowrka kun ee bulshada soomaaliyeed ka mid ah dhegaysiga ay dhegaysanayaan dadka faraha badan ee siyaasiyiinta leh ee wariyaasha leh ee haldoorka leh ee shacabka leh ee ganacsatada leh dhammaan waxaan ku bogaadinayaa inay dhegaysanayaan doodaha noocan oo kale ah cabdilaahi haddaan u gudbo cabdilaahi waa diblomaasi mar labaad waa taliyihii sirdoonka qaranka mar kale wuxuu halka ku joogaa siyaasi aan dhex ka ahayn mucaaradada iyo muxaafidada waa siyaasi mucaarada su-aashaan weydiinayaa kama gudbi doonto arrimaha ammaanka iyo doorashada mudane cabdilaahi sambaloosh waxaa socota olole soo bilowmay ama bishiisii saddexaad galay oo ku wajahan weerar aan loo aaba yeelin oo ciidamada ammaanka sirdoonka kuwa qalabka sida dalalka inoo soo tababaraya ah cabdilaahi shalay taliyihii sirdoonkaad ahay hore diblomaasi safiir soo maraad ahay seed u aragtaa mucaaradka beegsanaya ciidamada su-aashayda labaad cabdilaahi waxa dhacday maxay tahay ma jirto su'aal labaad teere su'aal labaad ma jirto su'aalay ku cismad iyo erkaadi maya ma jirto waxaan rabaa inaan annaga ku soconno hal wadiiqo oo xeera xeerka haddaa laakiin dad iga horreeyay laba su'aalood bay weydiinayeen ma jirto su'aal labaad su'aasha ayuu galo su-aasha labaad ee aan weydiinayaa cabdilaahi waxa weeyaan 19 febraayo 18 dhacdooyinkii habeennimadii dhacay baad ogeyd ciidamo hubaysan oo mucaarad ilaalinayaad marag ka ahayd shacabkiina dhegaysanaya maqraatibay ka ahaayeen cabdilaahi dowladdu waxa ka duwan oo aan ahayn inay difaacato ammaanka caasimadda maxay tahay aad qabto aad ba u mahadsantihiin waayahay bismillahi raxmaani raxiim horta waxaa la yidhi nin ku dilay horta nina kaagama shisheeyo adiga ciidamadan waxaa loogu talagalay ammaanka qaranka inay ilaaliyaan qof kastoo soomaaliyeedna ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ahaado inay ammaankiisa ilaaliyaan looguma talagelin in ay dadka qaarna bahala ka dhigaan ama dambiilaal ka dhigaan dowladnimada lid ku ah qaarna ay difaacaan madaxda qaranka madaxweynayaal ayaa hotel maa'ida tagay dabcan qof madaxweynahana immunityna waa leeyahay security risk ama khatar amnina waa ku wajahaysa ilaalo asaga ilaalinaysa oo ammaankiisa sugaysana inay la socoto waa waajib daruufta hadda taagan oo amni ayaana keenaysa marka horta qof madax yani biyo dhul lagu arag lagana dhowr war adiga xagee ku aragtay madaxweynihii ra'iisul wasaare kaasoo dhig oo siyaasad ku soo geliyay in la yiraahdo qatar oo ammaanka qaranka ku yahay kii xilka si nabada asagoo kaa cisho kara kuuna diidi kara kuuna diriri kara inta amaraysa ku marsii karo dhibana kugu wareejiyay si walaalnimaana aad tiraahdo ammaanka qaranka qatar ku yahay hadda micnaheedu waxay tahay ay sheegeen waa wixii la dhihi jiray takfiirinta siyaasadda waa waxa shabaabku oo dhaqanka shabaabka oo kale tahay warnimakaas waxay sheegeen madaaharaad nabada oo fikirkooda ku aadan ugana duwan yihiin dawladda inay ku cabirayaan meeshaas u dageen waxa inta jasiiro ka sheegaan oo ah dawladda waqtigeeda waa dhacay sharciga hal ilaaliyo doorasho heshiis lagu qabto ka badanna ma sheegeen haddii la yimaadaan inay qatar yihiinna markaas la arki lahay
dabeeciina qofkan waxaanu soo waday maba ahanba in la yiraahdo oo ama maxaan ku dhahaa qofku wuxuu sameeynin in hadda lagu sii labalgareeyo ama la qiyaaso waa qalad anoo qaybka ma ogin waxa kaloo ku soo haray dawladaha anaga dawladaha xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif turkiga dalkan ayaga keenay beeska turkida ayaga seexay danab xasan sheekh iyo budgetka markuu yimid 2014 la seexay asaga American engage garay Washington tagay oo tagay meesha la yiraahdo Pentagonka oo State Department tagay oo soo loobi garay oo ciidan qaas oo bal dawladda jiya Mareykan ciidamadii oo ayaga ay keeneen hadii la yiraahdo waa lagu aadiyo it's unacceptable war annaga madaxweynaha hadda joogo xurmada ay leeyihiin xaq dastuuri leeyihiin mid civil ay leeyihiin annaga dawladaha ciidamada noo tababara ma dhihin ee qof difaaci qaran difaacan leeyahay annaga waxaan diidanahay meeshaan qof qaranka ka sareeya meeshaan qof kasta ku guuleysta war siyaasadna waxay suurtagal ah laga qabtaa game kasta kuma guuleysan kartid annaga marka ciidamada cid kasta ee u soo tababartay dalka waa mahadinaynaa annagaanaba ka shaqeynay inay tababaraan ay soo degaan wadanka kuwa hadda la dilaayo ama loo isticmaalayo ayaa ka soo shaqeeyay laakiin micnaheedu ma ahan inay free hand leeyihiin oo waxay rabaan sameynayaan waa la ifinaa qaladka cid kasta oo loo soo tababaray dalkan oo wixii loo soo tababaray waxaan ahayn qabanaysana waa la dalaceynaya su'aasha labaad Cabdirasaaq Teerahaye waa ka jawaabay tii kale labadii waad ka jawaabto waad mahadsan tahay 18 daqiiqo noo dhiman su'aalaha 30 second ku soo kooba Cabdullaahi adigana soo koob jawaabaha soo koob qofka xiga حسين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خيرت دم والسلامة سامبلوش waxaan weydiinayaa nimankan oo nabadeena saaxiib muddo la soo shaqeysay waa taqaanaa waxyaabo badan oo maanta dhacayo scriptigooda markii la qorayay waxaa laga yaabaa inaad xogaal u ahayd oo taliyaha amniga qaranka ahayd marka wax u qorshaysan waa malayn kartaa iyo si u fikirayeen iyo sida go'aanada loo qaadanayay maxaa la filan karaa isleedahay adiga waa la soo shaqeysay nimankaas ma ku cudur daaranaysaa gafafka dhacay inta aad joogtay xagga not only qalbi dhagaxa hadda la soo hadal qaaday laakiin gafaf badanaa dhacay ma ku cudur daaranaysaa mise okay kula tahay oo maasanta absolutely out of order no Abdullahi hay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ماشي كجرتا iyo taliyaha iyo xiriiryaasha dhamaan waa salaamaya salaan kadib Tambalo show kuma tiyaa inuu dhirado oo dadkan Soomaaliyeed ee aragtida ama su'aalaha qabo hor yimaado iyadoo la faafreebin ama aan la mujaamaleenin su'aasheeda waxay la xiriirtaa doorashooyinka taliya waxa la socotaa nabada nolol nimanka la yiraahdo ama madaxweynaha ama teamka hadda filada ku jira waxay sameeyeen practical la xiriira doorashooyinka isteediyada waxaad la socotaa galmudug in doorasho ka dhacday ayadoo lagu murunsan yahay oo farqaal isku dhagan yahay axmaq qor oo madaxweyne noqday hambaliyo u muuqatay mid sii diyaarsaneedna imamoota uu soo gamay isla markiiba markii hoolka ayadoo laga soo bixin waxaa la socotaa baydhabo waxay ka dhacay oo doorasho markii ugu dambeysay la soo xirxiray raggii musharaxiinta ahay oo roobu ka mid yahay waxaa la socotaa koonfur galbeed oo doorasho aan dhahay hirshabelle ayaan doorasho kale ka dhacday oo markii ugu dambeeyay raggii mucaaradka ahaa oo adiga ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh ay hambaleeyeen waxaa la socotaa in madaxweyne deni uu noo qishay maalin hore uu yiri markasta internationalku waxay la macaamilaan qofka filada ku jiro ha ugu jiro sharci ah ama sifado rab ha ugu jiro haddii madaxweyne farmaajo uu qabsado doorasho wax u eg uu ku shubto team asiga taageersan ama xildhibaan ah ay u codeeyaan markii ugu dambeeyana ay internationalka iyo beeshi lixaad waxa la yiraahdo u hambaleeyaan oo ay soo dhaweeyaan u ictiqaadaan madaxweyne sharci inuu yahay sida odawaa iyo Kamaal Guutaale iyo rag la midka ah ay ugu hambaleeyaan qorqor ma u hambaleeyo doontaan muxuu yahay si doorka ama wax laga filan karo musharaxiinta iyo mucaaradka inta waa maasantiin horta aniga dadkii oo Cali Guulaaw iyo doorashadii Hirshabelle u hambaliyay kuma jirin dad u hambaliyay waa jiraan of course dawladnimada anaga awadno wax hadda perfect oo sidii la rabo maaha laakiin progress tartiib ay sameynaysaa wixii laga soo tanasulay oo indhaha laga soo qabsaday oo la xiriiray doorashooyinkii maamul goboleeda waa soo dhaceen laakiin tan waxay ila tahay mid la isku cafinayo ama mid hadda wax gebgeba oo macna lahayn oo ii sheeg maxaa ku dhahaa nin soo gooni u qoostay in la iska qanci doono ama raali iska ahaan doono
aniga ma qabo af joog looma adeego ragga kula tartamaya kursiga oo mucaaradka madaxda ayaga jooga mowqifkooda waa cod yahay adduunkana mowqifkooda mar loo cadeeyay yaan waqti la iska dhumin wax la yiraahdo doorasho macbilaho ii sheegeen maxaan ku dhahaa sham election aho aan loo dhamayn dalkan kama dhici doonto natiijadeedana qof aqbali doona lama arko beel caalamo aqbalaysa ma jirto maamul goboleed qabanaya ma jirto qof qaban karta lama arko meeshaan doorasho lagu heshiiyey oo loo dheeyahay oo laga wada hadlay oo natiijadeeda qof walba marka hore uu cadeeyay inuu aqbalayo si lagu aqbali kara ku dhacdana un baa la aqbali doonaaye doorasho ii sheegeen nin shaar uu tashay meeshaan kama dhici doonto waqtina la iskaga lumin أنا كحجة مقعد وعلي نظن عبد الله والسلام يا يدادياش برنامجك هل سؤال الله حريرتا يا وتا دور الشدة يا أمني هذا نظن السيدة دكتور لو يكون لحي طبانكي عداده يمشي لي هذا جوهر الوضع وحا كده عي حبض اللي بعنا أيا بناك أيوة تاجن أيا عد لقى عديي أو كراسته اللبوبي وحد عدي إن طلع ويريت أحمد داعي وكم ديهاي odayaal beeleed baa jirtay oo airport dhexdiisa dawladdu inta la soo heshiisay dhuuso mareeb ka keenay xasan daar weeso lagu dhibaateeyay waxaa jira xildhibaano badan oo lagu laayay 18 ka badan oo ku dhintay xamar dhexdeeda arrimo kala duwan qaarkood madaxtooyada dhexdeeda oo qarax baabuurta loogu xiray ma cadeyn karna cidii samaysay laakiin arrinta ku saabsan amniga waxaanu ognahay 2016 in xitaa loo diiday musharaxiintii in ay hoteelada ku shiraan oo warqad ay soo saartay dawladdu iyo wasaaradaheeda sidee marka raggii sidaa sameynayay oo 2016kii doorashada qabtay noocaas ah ay maanta ugu doodi karaan doorashada farmaajo qabanayo waa mid dhan ka raran oo uu ku boobayo kuraasta baarlamaanka waa maasanta horta sideedaba hebel boqol qof uu dilay anna waa dilaa af Soomaali ma 2016 kama joogno 2021 aan joognaa markaas Soomaali wixii la gudbanay iyo sidii marxaladda ku maaray lahaayeen iyo sidii loo gudbi lahaaya la soo sameeyay waa laga soo gudbay haddii hadda dawladdii markaas meesha joogtay doorashada ayada ay maamulanayso say rabta ka yeelaysana madaxweynihii meesha joogay looga maraayeen galmudug doorashada u madax banaaneed dabcan markaas cabdikariin xuseen guulada madax ka ahaa isaga la rabaa shakhsiyan in loo warsado shariif xasan isaga ajandiisa watay isaga rabaa in loo qabsado dawladda dhexe mas'uul kama ahayn axmed madoobe isaga mas'uul ka ahaa isaga rabaa in loo qabsado xasan sheekh mas'uul kama ahayn cumar cabdishiil mas'uul kama ahayn dabcan qayb way ka ahaayeen cabdulla cagaasa qabanay war markaas waxay aheeday qasnada bangiga ee qasnada lacagta doolarka ku jirto furiyaasheeda nin mooda haysan furiyaasha waa qaybsanaayeen xasan sheekhna madaxweyne ku jira wuxuu ahaa ii sheeg maxaan ku dhahaa filla Soomaaliya dabcan wixii uu shaxshaxaadi karo ama farsamaysan karo bin aadan iyo damciisa lama kala saari karo walaha laakiin mas'uuliyadaas male waa laga soo gudbay farmaajo ku yimiday hadda waxaa la rabaa qaladaadka shal dhacay inuu sadhicin waxa maanta taagan in laga gudbo wax la isla ogol yahay oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa la aqbali karo oo ilaa xad macquulan in la qabtaa loo baahan yahay hebel waxaas ku soo dheelay aniga maanta ku dheelaa waxaas war ma shalay wixii la soo sameeyay waa la soo sameeyay doorasho dhacday si nabadaha la isku wareejiyay Soomaali soo gol iyo adduunka Soomaali gol ama madaxweynaha lagu wareejiyay hadda waxaa la rabaa intii uu qabtay intuu ku dir karo inuu ku diro ama inteedii inuu soo celiyo loo baahan yahay laakiin shalay la boobay iyo shalay lama joogo maanta la joogo wixii maanta wallahi aad oo maasan tahay dhageysta xiga Umar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا تليه هرينا والسبيدة عبد الله علي يا دمان دتك دقيسنة إدادياش برامج كان سؤال شيء ذو حياة هاي سيدا أن أجنى هاي وحى مقالة مقدشة جارهان هوتيل دكالة كسعودية شيرو دحي مشرحين تا يرئيس الوزراء حكومة الصومالية يدو أن أجنى إن مدحوينها قرن كان وحل جارسين وقدم هذا وقتي doorashadiisii 4 sanaad qodobadii marka shirkaas inta badan looga hadlayay ama culayska lagu saaray waxa kamid ahaa in taliyaasha xilka laga qaado isla markaana taliyaal cusub loo magacaabo muddada xilkaas u soconaya haddii marka taliyaashii laga saaro haddii taliyaashii ciidanka xoogga dalka iyo niisa iyo intii la magacaabayba laga qaado xilkaas madaxweynihiina ay muddadii ka dhamaatay oo hadda uu yahay kusime ama uu yahay madaxweyne doorashadii la rabo inuu wadanka gaarsiiyo taliyahan waxaan weydiinayaa yaa kaloo magacaabi kara
taliyayaashaas xilka laga qaaday boosko yaa buuxin kara isleedahay oo soo magacaabi kara taliyayaashaas midda kale haddii hoolkii doorashada aynan ku qanacsaneen musharaxiintii la tartamaysa madaxweyne farmaajo inay amnigoodii meesha ay taagtaagu ka jiro oo kalsooni badan lagu qabin in dowladda ciidamo ka socda ay hoolka doorashadoo kale ilaaliyaan aan kalsooni badan lagu qabin sidee markaas lagu qancin karaa oo ma ciidan laisku halayn karo oo hoolkaas ilaalin kara loo heli karaa waqtiga doorashada iyadoo aan ognahay doorashadii hadda ugu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kalsooni badan la sameeyey oo wax badan oo ay tabaniyeen markaa musharaxiintii tartamaysay laga bedelay meeshii hoolka uu ka soconayay oo ay ka mid ahaayeen in si waadixa loo arka dadka codeynaya oo kale in Ethiopia oo kale ay meesha ku jirto sida dadka qaar wararka u sheegayeen oo meesha ay u baahan tahay in shisheeyaha laga saaro waa lagu qanciyay musharaxiintii tartamaysay sida ay rabeen waa loo sameeyay soo gaabi walaalow soo gaabi hadda suuragal ma tahay in arrimaha ammaanka lagu qanciyo musharaxiinta inay hoolkaas sida ay wax u arkaan oo ay wanaagsan ay u tegi karaan ciidan amni ah oo hoolkaas ilaalin karana loogu qanco loo sameyn karo labada su'aal aan qabaan maasantiin dhamaantiin horta ay sheegeen dadka musharaxiinta waa dad macquula waa dad mas'uuliyiin waa dad wadkan soo maamulay wax kasta oo suurtagal oo macquula waa ku qancayaan waa reasonable waa dad open minded ah dad marag ku dheg ah ma ahan dad tooda kale oo caddahay ma ahan haddii laga wada hadlo oo niyad same muujiyo dabcan ciddii ammaanka loo xil saaray oo gacanteeda laga aamin noqon karana waa la ogol yahay taliyayaasha haddana waa soo sheegay su-aashaas haddii laga qaado qof lama magacaabayo taliya ku-xigeenada hadda ayaga ku xiga ayaa shaqada wadaaya waana laga heshii karaa oo waxaan xal laga gaari karin ama isafgaradka laga gaari karin ma jiro haddii joogayaan xitaa waxaa la rabaa shuruud in lagu xiro apology public inay bixiyaan declaration public ay bixiyaan oo ay dhahaan annaga wixii hadda ka dambeeya electionna shaqo kuma lihiin election securityna shaqo kuma lihiin siyaasadna shaqo kuma lihiin haddii waxaas ay ka dhaartaan oo ay banaanka tagaan oo waxay saxiixaan hadhow lagu qabanay ayagaana mas-uuliyadda qaadanaya cid hadda ku amri kartaan ma jirto marka annaga dad oo macquulaan nahay dad ii sheeg maxaan ku dhahaa wax impossible ama waxaan suurtagalayn raadinayo ma nihin intii xada waxaanu in compromise ku dhammaadaan doorashada lagu heshiiyo hore u dhaqaaqdo dalka hore u dhaqaaqo ismarwaagaan laga gudbo sida ugu fiican ugu sahlan walaaltinimo ku jirtaa loo baahan yahay annagu hadda wax oo xujo ama wadna waxa wadnaa cabdullaahi aada u maadsanta 7 daqiiqa noo dhiman labada qof ee dhiman aan kusoo qatimeena M iyo A بسم الله الرحمن الرحيم agaasimaha waa salaamaya magacayga waa maxamed cajiib saaxiibada kale barnaamijka daadihinayo catoosh iyo cabdicasiis iyo cismadba waa salaamantihiin su-aasha aan weydiinayo taliyaha waxay tahay inta uu siyaasadda ku jiro 12 sano waqtigiisa ugu badan wuxuu ka shaqeynayay amniga mar ciidamo fara badan ayaa asiga hortiis iyo xilliga uu jooga iyo asiga kadib dalka loo soo tababaray qaarkoodna waxaa lagu soo tababaray dalka gudihiisa qaarna dalka dibaddiisa taliyayaashaas la tababaro horta hor ma loo tababaraa shaqada ay qabanayaan inay qoriga xabadda inta koob kareeyaan ay geliyaan ay ridaan waxaa ahayn ma loo tababaraa oo cidda ka amar qaadan karaan cidda dalka hogaaminayso waqtiga ay haysato sharciyada ay haysato tababarka ciidamadaas la siiyo ma ku jiraan iyo asluubta iyo daadihinta iyo hogaaminta iyo qaabka u shaqeeyaa horta ma ku jiraa tababarada la tababaro taas waa su-aasha ugu horeysa tan labaadna waxay tahay haddii ay dhacdo in laga heshiin waayo amniga doorashada hadda aan guda galayna marnaba haddii uu ilaah ka raali noqdo oo siyaasadda keliya laga heshiiyo amnigan aanan laga heshiinin maxaa la gudboon saraakiisha iyo ciidamada hogaamin doonta electionkaas maxaa kula dardaarmaysaa waa mahadsan cajiib labada su'aalood noo soo koob cabdullaahiyow aniga horta waxay la tahay ciidamada soo tababaro horta waa socota waa ogtahay dalku dagaal ku jira markasta tababarka iyo baahida ciidanka loo qabo waa degdeg waxaa ku jira ii sheeg baahida loo qabo dartood markastana waa la tababaraa wadaniyada iyo dabcan sharciga ciidamada iyo xeerarka ciidamada iyo xeerarka dalka u degsan iyo dastuurka iyo si detail oo rasmi loo baro because ciidamada waxaan looga maarmin howlaha amni oo taagan dartood xitaa waxay ahayd markii dibadda lagu soo tababaro in gudaha wax la yiraahdo harmonization ama trainingka dalka la sameeyo kulligood ciidamada la sameeyo waqti badan loo mahayo
laakiin dalkan wixiisoo dhan sharci maahan waa siyaasad daruufta dagaal ee ku jira ayaana discipline xumada iyo dadku inuu vulnerable noqdo oo madaxdu abuse garaysay soo doonto isticmaasho ayaa ka geenaysa waddankan waddan weli institutionalize garaysan maahan dowlad deep state weli uma dhisman institutions hay'ad uma dhismin weli waa personalize garaysan yahay madaxda dalka loo doorta la rabaa si mas'uuli ku jiro inay u dhaqanto awoodahoodana aysan wada isticmaalin balse ay qaar ka tagto maxaan ku dhahaa ciidamada sidaad sheegtay maxaad fari lahaaday horta ma dhici karto election haddii siyaasadda laga heshiiyo ammaankana waa laga heshiiyo waa package labadaba waa isku xiran yihiin laakiin once laga heshiiyo oo doorashada la fasaxo ciidamada waxaan kula dardaarmi lahaa qof kasta aakhiro dembigii gasho ayadaa loo qabsanaya soomaaliyana eeday qof ku gasho ayadaa loo xisaabtanaya madaxda waa mamnuuc amar qaldan in laga qaato cabdullaahi aad mahadsan tahay dhegaystaha u dambeeya cabdisalaan salwe 30 second su-aashaada cabdisalaan intuusan gelin aan rabaa inaan galo raallah cabdisalaan waxaan rabaa dadka inaan dhegaystayaasha aan la socodsiiyo waxaa jiro barnaamij cami files la dhahayo oo ayaamahanba ka socday maaragtay oo barnaamijyadii ugu tunka weyn ay ku jiray maaragtay club house-ka marka cami axmed oo qof magacaas wato ayaa hoos joogo isaga hala flow gareeyo barnaamijyadiisa culus oo barnaamijka ugu horreeya jimcaha soo geli doonana halkaas ha laga flow gareeyo waa mahadsantihiin cabdisalaan salwe soo dhawaaw 30 second su-aashaada عطوش يا عبد العزيز غولفير يا عسود آد بعدين سلام يا قاسم صاحبك السنبلوش إن أنا waxaan kaliya on teamka moderatorska aan kaliya kula talin lahaa arinta laga hadlayo ee transitionka ah ee 2016-17 la maray iyo 2020 iyo 2021 comparison aad u fiican baa lagu samayn karaa wuxuu u baahan yahay in program dhan in waxaan maqlayay comparison tira badan oo lagu sameeyay oo aanan fair ahayn aniga waa ka mid ahaa dadkii waday transitionka dhowr marxaladood oo isxugu soo maray mar waxaa laga heshiiyey oo madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisii ay bannaanka iska soo dhigeen inaysan one person one vote qaban karin 2 sano iyadoo ay dhiman tahay 9 bilood waxaa lagu mashquulay in model laga heshiiyo qaabka doorasho aan qaban doono ku soo dhammaaday heer yani 4.5 iyo heer degaan oo sanadka lagu dhisay kadib process baa la galay processka wuxuu qaatay intaasoo madal isugu imaanayay labadii asbuuc oo shir baa la isugu imaan jiray madaxda qaranka isugu imaan jirtay kadib doorashadii baa la galay ilaa iyo February 5 madaxda dalka waa shiraysa February 8 doorashada dhacday marka processkaas intaas la eg wuxuu ahaa mid intii la doono ka furfurankan hadda jira ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ayaa tartamaya way dhici karta in mararka qaarkood wasiir ama qof wax soo sheego iyadoon la iskugu jawaabin warqado ayaa telefoonno lagu xalinayo la dhahay waxa sax ma aha la joojiyo oo la joojinayo ama ra soo baxay baa jiray laakiin aan weligood fulin oo markhaati leh hadda ninku ka hadlayo kale yaan hoteelada lagu shirin waa dhacday inay warqad soo baxday laakiin marna lama fulin sababtoo ah waa laga wada hadlay waana la joojiyey iyadoo aan la isdireerin marka qaab ayaa loo waday waxaan ku talin lahaa ma dhammayn karo in habeen laga hadlo transition 16-17 iyo transition 2021 oo aad baad mahadsantahay la keeno aad baad mahadsantihiin cabdisalaan aad baad u mahadsantahay mawduucaasna guddigaan dhex dhigi doonaa insha allah waana mawduuc aan isbarbar dhigayno kala guurkii 2016 iyo kala guurka hadda la taagan yahay aad baan ugu mahadcelinayaa dhegaystayaasha 2400 ah ee caawa nala joogay sharaf iyo cizi baad naga mudan tihiin insha allah wixii